Please السلام عليكم ورحمة الله subscribe. وبركاته صاحبة الصوماليات دافع دولدا نجدا ونيا دمان تيم با وحنا تقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف يكرام أي تهاي إن هالكن ما أنت كل بينه لبا أرضي لبا والد لبا شخصي أودت كصوماليات سمعت يشرف كل حله وبح ورسمة أو رير سياتل واشنطن يعبروا البرقد أو رير مياه بوليسة وحنجعلها بالمركة هراء إن إذا سود وياه ولا لها صومالياتنا أي إلى ستوكين دويان سود وهذا مركة هراء mahadsan tahay maasha allah jazaaka allahu khayran waan idin wada salaamayaa adiga iyo dhammaan bahda ku xiran barnaamijkaaga waxaan idin leeyahay waan salaan sharaf leh salaanta islaamka idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaan ku salaamayaa axmed idaa waqaca oo fursad noo siiyey barnaamijkan qiimaha badan iyo asxaabta ku xiran barnaamijkiisa waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waad soo dhaweynaynaa anaguna waan ku dhownahay mikrofon ما شاء الله وفرحة قولي رنتي صاحبة أنه جعلنا هاي وسيلة لسعوتان با استبايقة دي سنة كي تجي واحد دولدة أنفيي كوفيد 19 أما كورونا فيروس كاس أو حنبي إسو سعود كدتك جديد كعركة إيلوكا وحكالته أو كوفيد 19 وكالا دري أرضي دي جامعة لها سكولة دا iyo college-yada iyo meel walba waxa kaleeto oo baan la geliyay shaqaalihii ka shaqeynayay kambaniyada kala duwan iyadoo qof walba la yiri gurigaaga joog saameyn xoogan ayuu ku yeeshay qof kasta oo bini aadan ah oo noolo walba xoolaha iyo aadanaha intaba waa la kala cabsaday waa la kala cararay taladuna waxay ku soo gabagabowday farxalo oo gurigaaga joog si kastaba ha noqoto waxaan maantay diiradda ku saari doonaa barnaamijkan waxaa jirtay in sanad walba arday kala duwan qaybaha kala duwan ee waxbarashada ee aan kasoo sheekeeyey ay ka qalin jabiyaan qaybaha kala duwan ee waxbarashada ama jaamacad ha noqoto ama high school ha noqoto ama iskuulada kaleeta intaba in ay ka qalin jabiyaan oo ay shahaado qaataan qalin jabintaas runtii waxa ay ahayd qayb muhiim ah oo dhista qalbiga ardayga iyo qalbiga waalidka wax soo koriyey labadaba fantasiyo ayaa laga samayn jiray iskuulka ama jaamacadda iyo xaafadda uu qofkaasi degan yahay iyadoo istiidyada qaar la iskaga safri jiray dadka qaar ee weliba awooda aabbayaasha markaa afrika jira ay ilmahooda dib ugu soo laabtaan iyo xasaskooda marka ay shahaadooyinka qaadanayaan si ay ula wadaagaan maalintaa qiimiga badan leh ee qofka ay jeclaayeen uu qalin jebinayo laakiin taasi hadda way hakatay waxayna ka mid noqotay nolosha caadiga ah in qofku uu online wax ku barto online shahaadada ku qaato mararka qaarna drive through sida mcdonald adigoo wax ka cunaya in shahaadadii aad halka ku qaadato laba qof oo qiimo badan ayaa ila fadhisa sidaan idin sheegay ubax warsame iyo cabdinuur bal waxaan jecelahay ubax inaan ku bilaabo iyo saameynta covid 19 ubax soo dhawow waa mahadsan tahay axmed jaaniskan maanta insha allah fursadaan u helnay in aan maaragtay barnaamijka idinkala qayb qaadano adiga inta kugu xiran arrintan oo covid 19 effecti dhinacyo badan ayuu nagu sameeyey haddaan ku hadlo afka ardayda anigoo ah hooyo ardayad ahayd 4 sano lasoo dhaafay oo hadda ardayda qalin jebinayay sanadkan 2020 class of 2020 la yiraahdo marka sidaad ka dhawaajisayba way bedelantay marxaladii aan naqaanay sidii loo graduate garayn jiray waad garan kartaayo intaasoo sano markaad soo sugtay oo iskuul soo dhigatay oo adoo weliba hooyo ah dadkeena waaridka ah hadda oo barnaamijkan ka qayb qaadanaya laba waarid baan nahay oo iskuulkii dhiganayay oo shaqaynayay oo ubadkii korinayay oo communityga la shaqaynayay maalintaas waxaad sugaysay in ubadkaagii ay ku garab istaagaan oo arkaan tusaalena aad u noqotid marka qadar ilaahay may dhicin oo covid 19 waxa uu keenay carqalad ah kuwarkii ugu dambeeyay inaan guriga horta ka qaadano oo aan zoomka sida hadda ku wada hadlayno aan macallimiintii professoradii kula qaadano haddana waxay keentay in shahaadadeena markii la guddoonsiin lahaa ay noqoto hadda digital baa idinkugu soo diraynaa ay dhaheen waxaan idinku guddoonsiinaynaa digital si oo online ah socodkiina ma jiro la socon jiray stageka oo ayadana waxaan ku sameynaynaa aniga hadda iskuulkayga oo kale evergreen state college baa la yidhaahdaa oo washington state ku taala waxay dhaheen drive through waa mcdonaldka hadda ka hadlaysay drive through ahaan ayaa gaarigiin idinkoo ku jira iskuulka soo hormaraysiin ardaydii graduate gareynaysay oo dhan qof walba asagoo gaarigiis ku jira ayadoo la ilaalinayo la xakamaynayo dadka isu dhawaanshahooda marka waa sidaad uga dhawaajisay sidaa isya lamid ah ayaa graduationkeeni loo diyaarinaya waa wax oo unconventional waxa ay maraykanku dhahaan si aan caadigi ahayn oo ka baxsan marka xoog bay noo saamaysay
aad baad u mahadsantaa ubax warsame oo reer Seattle Washington ah. Cabdinuur Barkad oo reer Minneapolis ayaan u baaqayaa markan. axmed idaa waqaca adigii ubax waad mahadsantihiin mar labaad iyo dadkayna daawanaya ama ku xidhan barnaamijkaaga. haddii aan usoo noqdo su-aasha horeed ubax weydiisay oo anigana kolley aad rabto inaan ka jawaabo barnaamijkan la yidhaahdo COVID-19 saameyn weyn ayuu ku yeeshay bahda waxbarashada oo da' walba leh hadday ahaato carruurta ka qalin jebinaysa kindergartenka iyo hadday noqonayso dadkii jaamacadaha ka qalin jebinayay waayo waad ogto qof bini aadam oo maanta oo dhan tacab galay ama beer falayay marka beertiisu bislaato wuxuu jecel yahay inuu midhihii cuno marka xafladahan waxaa loogu talagalay dadka ardayda ah inay niyaddooda kor u qaado dadka kale aan weli wax barana inay dhiirigeliso iyaguna markay arkaan qof walaalkooda markaa qalin jebiyey ama shahaado qaatay inay dhiirigelin u samayso marka aad ayay noo samaysay annaga jaamacaddayda waxaa la yidhaahdaa Metropolitan State University waa jaamacad ku taalla magaalada St. Paul oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn gobolka Minnesota markaan galnay spring breakii kabacdi baana lagu yidhi ha soo noqonina waxaa dilaacana lagu yidhi xanuun la yidhaahdo COVID-19 marka waxaa idii hadhay 8 week ayaaba idiga hadhay semesterkii oo 4 bilood ahaa 8 week waxaan idigu samaynaynaa online marka waxay keeneen isla week kabacdiba inay yidhaahdaan xafladdii oo dhacaysay bishii May 7deeda waanu kansalnay marka anagoo badan oo arday badan ah xitaa waalidiin badan ayaa ka xanaaqay oo noli go'aanka makaligiin baa gaaraya annagu waxaan nahay stakeholders baan ardayda baan ka mid nahay meedankaas ka gaarayo nala tashanaya marka annagu waxaanu yareysanaynay xanuunkan iyo weynadiisa maanan ogeyn waxaan u haysanay wax carqalad nagu keenay oo kale oo ay rabaan inay dib u dhigaan markaas ilaahay mayana waa amar ka soo baxay gubernatoraha stateka oo ah in ka badan 10 qof inaanay isku iman karin marka haddii aan rabno inaanu bedelino qorshahaas waan idinla soo sheegi karnaa laakiin haddeer waanu joojinay adigu dhowr week kabacdi bay noo soo direen email kale waxay yidhaahdeen August 15keyga ayay haddii ay possible noqoto laydin sameynaya xafladdii in ay dadkiinu ka soo qayb galaan waa haddii ay possible noqoto marka mar walba maaha marka waxay noo sameeyeen xaflad kaloo graduation oo Zoom ah oo halkan nin walba majorkiisii iyo wuxuu bartay iyo iskuulka muddadu soo joogayba ay ugu sheegeen oo iyagu u doodu rabaan inay ardayda ku raali geliyaan at the same time ay ku maslaxaan niyadoodana kor ugu qaadaan marka saameyntaas ayuu nagu yeeshay marka waxaan rabnaa walaalaha Soomaaliyeed meel walba bahalku inuu gaadhay sanadka inaan la sheergaray waxyaabaha kale ee qalin jebinta ardayda aad ula socon jiray newska kamid ah مثال TV-ga ugu weyn magaaladiina oo kaleeto jaamacadaha ku tagi jiray iskuulaadku tagi jiray uu soo tabin jiray iyagu sidee ku helayaan warka iyaga ah wallahi one of the professors horta iyo jaamacadda presidentigeeda sida hadda barqad oo kale waxay noo soo direen emailo oo markay noo sheegayeen inay kansaleen marka waxay yiraahdeen waxaan qabanaynaa virtual si oo maaragta online ah newsyadiina hadday doonayaan sidaas ayaa iyagana qayb kaga noqon karaan oo kusoo gudbin karaan midda kaleeto waxay studentigoo dhan u offergareeyeen oo ay yiraahdeen waxaa idin bannaan oo aan rabnaa inaan idinku dhiirigelino sanadka soo socda oo 2021 haddii aanan sanadkan aan heli weyno fursadda ah oo ilaa iyo September bay ka sharqaminayeen hadday noqoto hadday noqon weydo waxay dhaheen 2021 waxaan u dhigaynaa waqti gooniya ardaydii 2020 oonan socodka helin in aan ayaga siino time loo istaago oo ayagu ay maraan marka hore intay 2021 mareen marka weli kaas optionkaas wuxuu noo saaran yahay miiska laakiin de ilaah baa og waxay noqonayso oo ardayga markaan hadda ay joogto ayuu anaga macno noo sameynayay noomuusan sameynayo macno sanad intaan sugno aan dadkii kale sanadkaas ay iyaga waqtigoodii tahay markaas prime timekoodii inaan anaguna la marno waxaad u aragtaa si iska mara idinkana oo kala ah bay noqonaysaa macnahay hadda noo sameyn lahayd nooma sameynayso marka laakiin arrintaasna carqaladda ma ay soo gaarin kaliya ardayda jaamacadaha oo anagoo kala ah ee waxay soo gaadhay ka waran high schoolka aniga hadda waxa ii jooga 19 jir 2 sano ka hor ka qalin jabiyay schoolka high schoolka sanadkii asaga marayay sidii noola weynaa xasuustaa hooyo ahaan marka ka waran ardayda hadda 18 jirada hadda inay ahayd 12 sano intay school soo aadayeen high school graduation sidii ula weyn yahay waad garan kartaa ka waran ardaydaas oo dhan saas oo kala ayagana schoolka hadda wiilkayga ka baxay drive through bay u sameynayna ay dhahan marka xoogaa waxaad moodaa waa across from pre-K kindergarten illa iyo jaamacad kulli meeshaasaan isku meel baan taaganahay so waxaan oran karnaa I feel your pain nacam waan dareemayaa sida dareemaysid waan ku oran karnaa ardayda marka waa carqaladaas oo dadka hadda warbaahinta hadda anaga waxaan nala soo xiriiray dad kale oo warbaahinta ku jira oo yiri storyga mid ka qori karnaa maadaama ay effect idin ku samaysay marka yes waa warbaahinta cidina soo
maaragtay wargelisoo yiraahda ka qayb qaata waan u gudbinaynaa waxaan doonaynaa in aysan niyadda marnaba ka jabin dadka dhalinyarada ah anigu medical fieldkan hadda ka shaqeeyaa arrintan waxaan aaminsanahay dabtiga sida si gooni ah noo taabatay waayo anigu isbitaal baan ka shaqeeyaa markaan fiiriyo waxaan taaganahayba alxamdulilah waan caafimaad qabnaa xanuunkana nama taabanin marka wal xoogaa balan gadaal isaga dhigno complainkeena aan yareynaba isleeyahay niyaddan saa isugu dhisaa maasha allah aad baad u mahadsantahay ubax cabdinuur wiilka 19 jirka ah ama 18 jirka ah oo abaaya ay ka sheekeynaysay waxa uu dareemayo ka waran maxaa lagu qancin karaa maxaa loo sheegi karaa inkastoo waddankan ku koray oo newska la socdo oo systemka iyo sharciyada yaqaanaan ilmaha halkan ku dhashay haddana sidee waalidku ugu qancin karaa marxaladda taagan wallaahi wiilka Soomaaliga ah ama wiilka kale ee waddankan ku koray ee maanta rabay inuu qalin jabiyo si uu farxo high schoolkiisa sidii saaxiibadiisii ka horreeyay oo ula dabaaldegay sanadkii ka horreysay sanadkiisa wuxuu dareemayaa xanuun badan buu dareemayaa tan anagu dareemayno kale ayuu dareemayaa qof waliba wuxuu jecel yahay inuu farxo in ma garanaysaa shaqadii uu soo qabtay acknowledge lagu sameeyo oo la yiraahdo shaqo fiican baad qabatay dhammaan waxaas oo dhan waxay siinayaan qofkii niyad bay siinayaan waxay siinayaan himiladiisa inay kor u sii kacdo waxay siinayaan inuu waxbarashada ku sii dhiiranaado ayay siinayaan laakiin waalidiinta waxa u qurux badan haddii ay su'aasha weydiisay ay ku jirto waxa weeyaan in ilmahooga ay dhiirigeliyaan ay yidhaahdaan aabbo ama hooye dee dhibkan ayaa dhacay dee dhibkanna wuxuu ku yimid qadar ilaahay dhammaanteen waxbaan ka wada baranaynaa oo maanta xaaladaynu ku sugannahay berri kuma sugnaanayno oo ilaahay unba og annaga qudhaydu maanaan ogeyn covid-19 inuu dhacayo cid ogeydna ma jirin stateskuna ma ogeyn federaalkuna ma ogeyn marka halkaa waxaa laga yaabaa ilmaha caqliga leh ee waalid fiican iyo ma garanaysaa bi'a fiican ku jira inuu halkaa cibro ka qaato oo uu alla dhawaansho badan uu sameeyo oo cibaado badan sameeyo oo yidhahdo wallaahi xaaladdu way isbedeli kartaa waqti walba isbedeli kartaa marka waxay iyagana la qurux badan inay ilmihii gifti u keenaan ay aqalka wax ugu sameeyaan xaflad yar oo kale ama ay u sameeyaan zoom yar oo ay qaraabadiisii eedooyinkiisii dadka ay ku xidhaan si niyaddii loo dhiso lahaa hey waanu ku garab joognaa ayaa aad u qurux badnaan lahay aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay ubax hooyaa tahay sidaad noo sheegayso hooyooyin fara badan waxaa laga yaabaa inay ka jimbadaan oo ay yidhaahdaan sidee hooyo maraykanka joogtahay wax u baran kartaa bal arrintaa noo dulmar hooyo keliya maaha hooyo shaqayso full time ah oo ah sole provider oo qofka keliya oo mas-uulka ka ah guriga oo madaxa ah baan ahay marka hooyo keligeedo carruur korinaysa baan ahay marka waa kasii xag jirtaa oo hooyo garab haysata aabbihii la taagan yahay labadoodii isgarab siinayaan hadday iskuulka ku maqanta carruurtii laga sii hayo waa hooyo maasha allah meel fiican joogta laakiin anoo kale hooyadii ah oo aanan haysan garab kale ee iyadii wax walba laga sugayo haddana doonaysa inay nolosheeda hormarto maaha horta wax sahlan dad badanna waan dareemi karaa siday uga hakanayaan waayo anigu waxay ugu qaata waxaan idhahdaa hadda in aan graduationkan hadda sidan u sugayey 40 years bay ugu qaadataan dhaha waayo ma ii suuroobin markaan dhalinyarada ahaa intaanan hooyada noqon ima suuroobin laakiin hadda markaan hooyada noqday waxaan ogaa mar walba inay tahay hamigayga iyo yoolka aan doonayo inaan gaaro inaan jaamacad dhigto oo aan gaaro heerka waxbarashada heerkaas ma sahlana laakiin waa wax la samayn karo oo annagii baaba hadda dad loo jeedo oo inaad samayn kartid wixii annagaa tusaale u ah waxay u baahan tahay harjab waxay u baahan tahay go'aan waxay u baahan tahay dadaal waxay u baahan tahay dhabar adayg waxay u baahan tahay in aan fahanno waxba meel fudud lagama helo wax aanan loo marin dadaalna ma yimaadaan ubadkaan dhalnay hadda aniga hooyaan ahay 9 bilood haddaanan uur soo yeelano ku soo sidin oonan soo foolanin oonan soo korinin dee hooyo ma noqdeen iskuulkina waa sidii oo haddaadan adigu isu soo diiwaan gelin oodan adigu isqorin oo waqti meel u dhigin oo aad hamigaas yeelanin oodan ogaanin waxbarashada muhiimadda ay leedahay iyo waxa ay kaa bedeli karto iyo inaad cashar u noqon karto ubadkaaga waxay u baahan tahay planning waxay u baahan tahay inaad balaan dejiso qorshe dejiso waxay u baahan tahay inaad hidadiilo leedahay waxay u baahan tahay inaad yool rabtid inaad gaadhid waxay u baahan tahay inaad fahantid macnaha iyo muhiimadda ay waxbarashadu leedahay laakiin waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo hooyo kasta iyo qof walba waa wax la gaari karo keliya waxay u baahan tahay inaad dhabar adeegto inaad dadaasho dadaala waa gaaraa maasha allah aad baad u mahadsan tahay ubax warsame cabdinuur barkhad aabbaa tahay adiguna waxbaad barataa aabbayaasha soomaalidu waxay caan ku yihiin maqaayadaha inay fadhiyaan qaadka la cuno turubka la dheelo jumladda la ciyaaro reeraha laga tago sidee kugu suura gashay arrintan iyada ah inaad arday tahay wax baranayso
aabuhu wax ma baran karaa waa su'aal aad u wanaagsan axmedow ana rabo dad badan inay fahmaan ay ka qaataan gaas ka qaataan gaariga marka gaas lagu shubo ayuu dhaqaaqa waa su'aal aad muhiim waxaad weydiisay waxa weeyaan horta waxaa jirta annagu rag haddaanu nahay inta badan waxaana lagu dhaliilaa rag wax ma bartaan laakiin dhaliil mahana way jirtaa waa wax taagan waa wax jira waa xaqiiqo jirta raggu waxba ma bartaan ayaa inta badan cagta loo saaraa oo gabdhaha ayaa dadaalo oo wax barta marka adiga iyo rag kaloo badan baa jirto la mid oo wax barta ama wax baranaya hadeerto marka waxaan u malaynaynaa in annagu tusaale u nahay nimankii derbigaasi ku oodna inaan derbigii ka jebinayno si ay uga soo baxaan meesha ayaguna u dareeraan haddii aan usoo noqdo su-aashaada kale niyo horta waxbarashada horta qofka kuma dhasho laakiinse waa waxuu ilaahay waafajiyo wamaa tawfiiqa ilaa billah weeyaan waxuu ilaahay ku waafajiyo inuu wax kale suurtageli maayaan anigu hawlo kalaan ku jiri jiray walaashii ubax baa garanaysa maalinba nin baan dhisi jiray ama gabadh baan dhisi jiray si ay xafiis u gaadho dadkaasi markay meesha gaadhaanna waa ku ilaawayaan kuma yaqaanaan marka soomaaliduna waxay tiraahdaa gabayga shayga la yidhaahdo saddex buu ku yimaadaa ama hiddo inay awowga iyo ayeyda iyo dadkaasi gabi jireen ama inuu ilaahay kuu siiye talenti oo aad qof fan u samaysan aad tahayood ama ciil marka aniga waxbarashadeeda waxaa keentay ciilku waa in marmar ku riixo america walba lagu weydiinaya ah what's your backgroundkuna waxa maxaad xidhan tahay wey haddaanaad hadda jaakada xidhnayn nin qaawan baad maxaad sidataa marka haddii aad caqli leedahay oo ilaahayna subxaana watacaala aad la kaashato su-aasha aad isweydiiso adigoo keligaaya ood reflection samaysid waxaad ka helaysaa motivation badan laakiin haddii aad tahay qof iska yimid oo rabo inuu iska noolaado ama meelaha ka qeylqeyliya ama dadka iska shaxaado de meel uma soconaysid meeshaasunbaad joogi dee waxaad adduunkii waxna maad soo kordhin aakhirana dee ilaahay baa xaalkayga ogaan kara marka aabba aad tahay aad wax baranaysid way adag tahay anigu aabbanahay waa sax waddanka waa ku cusbaa markaan waxbarashada bilaabay haddii la yidhaahdo nin iska dhowaan yimida baan ahaa waxaan ka bilaabay ESL baan ka bilaabay wax GED la yidhahdaan ka bilaabay waxaasoo dhan dad badan baa carqalado igu noqday war maxaad ku falaystaa war waxaa facebookkaaga inaa xitaa ii sheegtay waxyaalaha guushay gaarsiy facebook ay ka mid ah waa ka maqnaa waan active baan ka ahaan jiro wax way garanaysaa muddaan ka maqnaa markii aan midhihii soo dhoweeyey baan ku soo noqday meeshii sidii nin baarashuud kusoo dego kale marka waxyaalahaasoo kale ayaa ma garanaysaa ah inuu qofku yeesho go'aan cad ood balaana markaad yeelato ayaad meel gaadhaysaa go'aankii ay waxa ka hore inaad isweydiisay xaggeen u socdaa si xaggeen ka dhaqaaqaya xaggeen istaagi doona marka aabbana markaa tay u adagtay biil baa layga sugayey dumarka ameerika joogana waxay rabaan hal wadhaf inay laba ku wada dilaan shaqadii kale afrikana wado dad masruufo halkana dee wixii isma qabanayso marka nin ku adag ku jira marka waa inay kala daayaan in loo shaqeeyo ayaga iyo alaabta loo dhaqo iyo in maaragtay hooyadii loo biila afrika jirtay dee haa isma keenayso waxaasoo dhan maxaad uga jawaabaysaa taas waxaan ka oranayaa intaasba waa lidinka rabaaye excusena ma lihidiina shaqada qabsada howshiina waa amar culus marka waxaan u malaynayaa carqaladaha ragga hoos u dhigaya waa arrimahaasi ka mid yihiin baan jeclahay marka intaasaan taa kaga baxay ubaxay hadalkiisa haddaan sii raacno cabdinuur barkad marka gabadhii pressure ku saarto oo guri in loo dhiso Soomaaliya magaalada ka timid ay rabto tuuladii ay iyadu ku dhalatay hooyadeedii aabaheedii gaar loo kala biiro walaalkeed in loo biiro habareerteed la biiro adigiina ninkiina uu halkan joogo sidoo wax ku baran karaa ayaad isleedahay qayb ayay dumarku ka yihiin tacliinta hooseysa ee ragga wallahi horta siyaabo badan loo kala qaadi karaa su'aashaas oo waxayna ku xiran tahay qofka aad eegayso ama qofka su'aashaasayto la hordhigayo anigu haddaan isku dayo dhinacyo badan u rogrogo ilaa wax walba waa inaan dhinacyo badan u rogrogno hal dhinac ma noqon karto oo waan istaagi karaa meel aan difaaco dumarkii oon idhaahdo may laakiin reality haddii la dhahana labada dhinac waan isugu jirnaa dumarkii qaar waxaa ku jira iyagiiba waxbarashadii muhiim aysan la ahayn oo oranaya maxaa iga galay waxbarashadaadii aniga hooyaday baa ii muhiim ee orodoo guriga igu dhis taasi waa jirtaa dumarka qaar kaloo waxaa jira inta ay garab istaagaan raggoodii iyagii kala warkaale waxbaro iyagii wax soo bartay jaamacadihii soo dhammaystay baan naqaanaa oo raggii leh
kaale anaa kaa saarayo shaqadii aan aniga ka shaqeeya anaa labadeennaba reerkii haynaye adiguna waxbarasho aad oonan lagu karinna waa haynaa marka wax walba wasdaaniga iyo dhexdhexaadka wax ka fiican male marka waxaan leeyahay labada dhinacba raggii iyo dumarkiiba waa in la iskaashado in la isgarab siiyo midba mar baa jaamacadda aan ka saari karnaa hadduu hadda sida barkhadoo kale wuu aaday jaamacaddii wuu ka baxay xaaskiisii ayuu hadda wuxuu kala shaqayn karaa markuu asaga qaybta kale oo hadda uu dhammeeyo masterka inuu iyadii hadda maalgeliyo sida iyaduba usoo maalgelisay oo isagiina iyadii uu jaamacad ka saaro sidaasaan kulligeen uga bixi karnaa annagoo isgarab taagan istaakulaynayna marka waxaan ku dhiirigelinayaa aabbayaashii haddaysan waxbarasho weligood gelin inay hadda isu diyaar garoobaan gabdhihiina waxaan leeyahay wax u kala aqoola caawiya raggiina garab istaaga oo aan annagii ka saaranno raggeennii naloo bedeli mayo mar walba waxa weeyaan complainka wuxuu taagan yahay raggii Soomaaliyeed waa sidaa anigu waxay la dhashay 6 nin 2 wiilna waan dhalay gabar marka waxaan ka wadaa oo gabarba lama dhalan rag baan weligay ku heegarsanaa horumarka raggana waan jeclahay waayo horumarkiinu waa horumarkeena sida kaliya guul ku gaari karnana waa annagoo kulligeen isla wada horumarna ayaanu wax walba ku samaysan karnaa isbedelna ku dhalin karnaa isbedelada u baahannahay marka waxaan leeyahay gabdhuhu raggiina ilaashada caawiya oo garab istaaga ragow idinkana na garab siiya oo na taakuleeya si aan annagina horumar u gaarnay horumarka dumarku gaaraana waa horumarkii raggi labadeennaba haddaan sidaas u aragno waxa laabaya male laakiin intaan isriixriixayno wax weeyaan teleforay ka baxaysaa ubadkeenna dhexdu ka baxayaan si aan tusaale ugu noqono oo ay aabbe is haysta oo isgarab taagan haddaysan ishaysan xataa si maaragtay civilize ah oo wax isfahan ah ayay xataa haddaysan isla joogin ubadkii loo wada korin karaa garbaha loo wada istaagi karaa garbahoodii la isku garabsiin karaa ma aha hooyadii aabbuhu hadday kala tagaan xataa inay tahay in la iscolaadiyo ubadkii ayaa dhexda ku jira oo ku baaba'aya laba maroodi waxaa la yidhi markay isla dagaalaan dhexdooda waxaa ku dhintay intii yaroo ay ku istaagaanba marka labada dhinacba intaan isgarab qabanno ayaanu isgarab istaagnaan karnaa waa isu baahannahay horumarkeenu waa horumarka kan kale mid walba horumarkiisa waa horumarka kan kale marka mar walba taasaan anigu mar walba leeyahay ku boorinaya dadka aad baad umaadsanta ubax cabdinuur ninka Soomaaliga ah ee maqaayada taagan ee fadhi ku diriraya ee siyaasadda Muqdisho iyo Hargeysa ka socota isu programiyay ee markuu isbitaalka aaday loo turjumayo ee wiilkiisa isbitaalka markuu iskuulka tago aan macallinkii fahmayn ee maantay duruustii online ka noqotay aan waxba ka garanayn ilmihiisi la leeyahay waxba ma aysan samayn howl ma aysan qaban homework kama shaqayn oo hadduu rabo wiilkii intuu game ciyaaro uu uga dhigayo inuu wax baranayo maxaa tala siinaysaa wiilka ninka odaga wallahi ninka odaga waxa haysata dhibaato weyn baa haysata masiibo ayaa haysata baan anigu oran karin lahaa masiibadana ma aha masiibo uu ilaahay ku keenay waa mid uu naftiisa isagu ku keenay gacantiisa ku kasbaday weeyaan hadii jeer waxa qurux badan qofku marka uu wadan joogo inuu wadanka assimilation sameeyo oo culture-kiisa iyo dhaqankiisa la qabsado oo calal aqal uu barto afka wadanka lagaga hadlo inuu barto ayaa muhiim waayo waa ceeb dadkan Mareykanka waxay ka dambeeyaan wax la yiraahdo privacy-ga waxyaalaha xogta gaarka ah ubax waa professional waa gabadh dhakhtarada way garan kartaa marka adiga oo magaalada 20 sano joogay lagu turjumayo caafimaadkaaga information-kaaga dad kale turjubana ay ku hayaan oo laga yaabo qofka turjubaanka inaan qof aqoon fiican lahayn oo xogtaadii dad kale loo wadaago yani waa waxyaalo qofka hadhow tulo dhibaato weyn ku keenaysa uuna isaguna ka qoomameynayo marka waxaan kula talin lahaa iyo salaad walba waqtigeyga ayaa la tukadaa qofku inuu wax bartana ceeb maaha qofku ma garanaysaa waxa weeyaan wax ayuu baran karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diinteenna wuxuu ku saleeyey iqra bismi rabbika alladii khalaqa yani baro oo qor oo akhri qofka bini'aadamku inuu wax akhriyo faa'iidadu ka helayo waxa weeyaan bulshadii ayaa ku ixtiraamaysa bulshada kugu xeeran ayaa ku ixtiraamaysa waa lagu qadarinayaa waa waxbarashadu indhahay ku furaysaa meelo badan oo markii hore access u lahayn ayaad access u yeelanaysaa arrimo badan oo markii hore adiga aan lagaala hadlayn ayaa lagaala hadlayaa waxaasoo dhan ayay u furfuraysaa marka qofka waxaa habboon intuu wax maala yacnihi oo maanta oo dhan nin oo jooga wadankii oo ma garanaysaa wadanka qarbudaad ka wada ama dadkii dhib ku keenaya dadkii awood ay kaga soo baxaan waaye inaad halkaa aan war kuu haynin waa wareer taa waxaan ku siinayaa tusaale ayaan ku siinayaa anigu shaahidto anuu ahaa oo ragga iyaga u noqonaysa cilaaj ama dawo u noqonaysa waxaan joogay magaalada Djibouti baan joogay marka meel maqaayada baan fadhiyay maqaayadii aan fadhiyay waxa lahaa nin oday baa lahaa ninkii odagii haa uu maqnaa inamadiisii baa maqaayadii joogay
marka ninku Soomaaliyana wuxuu ku lahaa beero iyo wax marka beertiisii odaygii makhaayadda lahaa ayaa waa hore lagu dagaalamo reer kale oo reer quracada la islaayay marka ninkan wuxuu noqday ninkii magaca beerta inuu difaaco ku soo lug beelay ayuu noqday marka makhaayadii uu yimiday markaasuu wax cunay markuu wax cunay baa lacagtiina si inabadii baa joogay inabadii ma yaqaanaan waa inama yaryar meesha ku koray ama ku dhashay markaasuu lacag ma haye waxaan hayna hebelo ninkii beertiina difaaci jiray war ma naqaana dasuuda lagu dhaqay macnaha waxa weeyaan dugsiga lagu dhaqay warweelka kugu dhaqay hadaan lacagtiina siinay marka ninkaas wuxuu ku soo lug beelay inuu difaaco nin dantiis ayuu xadkiisa Ilaahay siiyay ku waay loogumana lisin sidoo isagu ugu lisay ma fahmaysaa marka ragga hadda shacabka u tumaysan waxba idin tarimayaan marka waxaan kula talin lahaa war halkan jooga oo ilmihiina ka warhayo waxbarashada hadda systemkii waxbarashada waxa loo rogay online baa loo rogay waxa weeye aniga laba yaryar baa ii joogta mid waxay dhigataa kalaaska koowaad homework aan uga shaqaynayay oo markay iskuulku noo dhamaaday ama intii horeba waan caawinayay markii hawshaasi bilaabantay iskuulkii waa maalin dhexdii way soo wacay wuxuu leeyahay iskuulka ilmaha dhigto waxa dhigta intaas oo familiyo Soomaaliya waxa wax kaga shaqaysaan waa 3 qof niyo ma naga caawin kartaa dadkii kale inaad kala shaqayso homeworkii ama aad nala wacdido bigu video shaqo ma naga rabtaa war ma yaa ku shaqo war haystaa hawl kale hay qadin marka halka waxay tustay yaxyax macnaha qof idil oo leh mas'uul baan ahay nimankuna had iyo jeer waxay ku doodaan aayad quraan oo ah الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على البعض وبما انفقوا بكتغي waxay baxsadeen bay ka tageen aayada way kala reebeen way ku shaxaatamaan marka intii dambe nin la isuul baan reerkii waxba ku darsanayna ilmihii baa meesha ku baabaya isagii wuu baabao waa kan loo turjumayo oo magaalada kula soo darsanaan jooga ilmihiina ayadu galaya oo suuqu galaya daraag buu barnay marka meesha waxa ka soo baxaya generation idil oo baaba ayaa ka soo baxaya marka waxa oran lahaa waragow isku tashada waxbarashadu ceeb maaha sharaf ayaad kaga helaysan Ilaahay ajarna waad kaga helaysan waa dalab cilmi Sheekh Axmed uu garanaya marka niyo reerkii u soo jeesto waxbarta ayaa ku soo gabagabin lahayd aad baad u mahadsan tahay Cabdinuur barkad oo reer Minneapolis ubax warsame faa'iido intee in la eg ayay ubadka u leedahay in waalidkood ay waxbartaan والله فائدة أي أولى هذا هو حويان مد وجوه الرئيس وحكم إذا مدن هذا بركة كهذا ليه أو أهيد المهي أذيك سكول كوكو هذه سكول كودي يوحي كوساب سنة يوحي برشدو دي يو هوم ووجو دي يمعلن كيسيدة كل حرير لهيد أنت سهرت مال إسكاك صو حريسة وما بهند إنه مركا قفكو هو جاميو إن كو مدن لبعض أذيك اللفتقة أيا واحد ريميسا إن إنده كوفرمان وحبرشدو علمه مسكحدو فرا waa sida geed baa tahay adigu hadaan biyo lagu waraabin geedku oo uusan helin qorax geedka si fiican uma baxayo adiga laftigaaga iyo kobciski maskaxdii hawada oxygen-ka ku neefsano ayay u tahay waxbarashada iyo wax akhrisku marka adiga waxa kobcinaysaa maankaaga markaad maankaaga kobciso waxa ku furmaya indhaha waxaad fahmaysaa nolosha baad fahmaysaa ubadkaagii adiga sidaad kula xiriir lahayd kula communicate garan lahayd baad baranaysaa marar badan dhibaato waxay ka taagan tahay wadankan aan ku noolnahay isfahan darro ubadka iyo waalidka ah sida kaliya oo taas lagu baabi'in karana waa inuu waalidka asaga horta wax akhriyo wax barto marka wuxuu fahmayaa meeshu ku dhaqan yahay ubadka dhibka ka haysta annaga meeshan ku soo dhaqanay wadankeennii sida loo dhaqmi jiray iyo sida hadda aan u dhaqmayno way kala duwan tahay sida kaliya aan ku fahmi karno isbedelka ama wax u dhaxeeyana waa inaan annagu horta is-educate garayno oo annagu wax baranno marka waalidka wax barto wuxuu fahmayaa sidoo ilmihiisi waalidka oo asagna ku caawin lahaa haddii aadan adigu wax baranin ilmahaaga seebaad ku caawinaysaa midda kale waxaan rabaa inaan aad aan ugu encourage gareeyo waalidka aanan xataa weli wax baran ma aha too late hadda bilow ceeb ma aha inaad tiraahid anigu waxba ma aqaan xagee baan ka bilaabaa jaahilku ma aha qofkaan cilmiga lahayn jaahilku waa qofkaan cilmiga lahayn oo haddana u arka inuu wixii yaqaano oo cilmiga u lahayn waxaas ma aqaano maaha jaahilnimo weli waadan gaarin oodan dalbin marka waxaan idhaahdaa ESL ka bilow haddaad tiraahid anigu ingiriis ma aqaan maxaan ka bilaabaa anigoo kale ama barkad ama dadka haddaad weydiiso waxaan kuu sheegaynaa waddadan soo marnay anagu shalay maanan ku dhalan inaan iskuul jaamacad ka soo baxno hooyadan caloosheena ugumaa soo bixin waa waddo dheeron soo marnay oo waqti dheer nagu qaadatay galaasba meel baa qaadanayno galaaskan qaado ka tag haddana mid kala qaado haddana soo wad haddana harjad buu ahaa ma sahlanayn laakiin meel ka bilow
hal galaas xataa qofka hadduu qaato hooyooyin baa hadda jira anigu aan la xiriiro hooyo ka mid a hooyooyinkaas waxay igu tiri ubax waxba ma baran karo basically waa hooyo haysata 7 caruura waxay ii soo istaagtay maskaxdeedu way xirantay waxba ma baran karo waa 32 jir waxaan ku iri 32 sano ay jirtaa waxba ma baran karo waxa weeyaan psychology aniga backgroundkayga psychology ahaan ani adiga waxaan ka shaqeynaynaa aan ku iri inaan intaan isa soo hor istaagno oo gurigaaga gadaashiisa god aan ka qodo oo warqad aan kuu keeno bac oo aad ku riddo wax aan leenahay waxa weeyaan aaminaadii inaadan waxba baran karin maanta waxaan ku ridaynaa iri warqadaas waan duuduubaynaa waa aasaynaa meeshaasaan ku dilaynaa waa wixii aaminaadaas waa inaan soo dilno markaa kabacdi oon soo aasno ayaa hadda waxaan ka bilaabaynaa inaad adigu aaminto inaad wax baran karto wax walbana waa dadaalkeeda dadkeenta aad samayn karto marka psychology ahaan horta qofkii inuu u rumeeyo weeye haddii ka horan loo rumeeyo ani waxaan ma samayn karo dan innama alacmaalu binniyaadii baa dadku aysan xasuusanin horta niyadda inuu geliyo qofka waxaas waa samayn karaa marka waxaan u baahannahay inaan kobcino annaga xataa bulshadii inaan ka kobcino dhinaca ah war waxaad doontaa samayn kartaa waa taas waa wax la hubo niyadda in loo dhiso dadkii annaga agagaarkeena inta joogto waa inaan horta niyadda u dhisno waxbarashadu waxay caawinaysaa keliya qofka ma aha ehelkaagay caawinaysaa walaalahaabay caawinaysaa familkaagabay caawinaysaa qoyskaaga bulshada aan ku dhex noolnahay anigu bulshadaan la wada shaqeynaa barkadna uu bulshada u shaqeeyaa anna sidoo kale bulshadaan ku noolnahay ayaa anfacaysaa waxaan anigu soo barto waxaan ku soo celinayaa dadkii bulshadii baan ku soo celinayaa marka waa muhiim aad baad u mahadsan tahay oo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdinuur majorka ama fanniga ardaygu baranayo ilmaha halkan ku koray dhibaatay kala kulmaan waxaa laga yaabaa wax aan intifaac badan lahayn inay iska doortaan taasina waxay ku timaadaa waalidka oo aan aqoontiisu dhisnayn arrinta iyada aad tala bixin arrintaas aad baan dad badan hore uga tala bixiyey oon siiyaa waxa weeyaan cilmigan technology-ga waxa la dhahdaa STEAM baa la dhahdaa science education technology math ayaa laisku soo gaabiyaa waa cilmiga ay bulshooyinka ku kala baxeen ama dowladuhu ay hore u mareen waa cilmiga shalay space egas cirka loogu diraayo sabtidii waa wax la barto laakiin inta badan dadkaan arko jaamacadahan ku arko ama ardayda ah war maxaad barataa baan ku dhahdaa waxay ugu dhahdaa business administration business administration war maxaad barataa accounting baan bartaa ma xuma waxbarashu yimiday jaamacad yimiday inuu business administration barto the business waxa weeyaan sidii business loo maamuli lahaa loo hagaajin lahaa adaama kaaga hagaajin kara oo de wax laga baro male kan accounting baranayna waa xirfad isaga ku kooban oo isaga reerkiisa uu briiska ugu soo saaray laakiin waxa qurux badan oo jecelahay halkan aan rabaa inaan ka gaarsiiyo dadku inay bartaan culumta technology-ga ah ee la yiraahdo science-ka ama STEAM-ka loo yaqaano inay bartaan waayo ilmuhu hadda wuxuu helayaa opportunity badan waxaa laga yaabaa inuu noqdo professor Robert Albert Einstein oo kale inuu noqdo waxaa laga yaabaa nin kale Newton inuu noqdo kale waxaana jira arday badan oo ama iyagoo iskuulka hoose dhigta ama kan dhexe ay dadkeenu inta badan u arkaan saaqid halkan waxaan ka cadeynayaa fursaddan anoo maanta haysta ilmo adduunka ku nool oo saaqida ma jiro waxaa laga yaabaa ilmuhu inaanu ku fiicnayn meeshan aabbihii iyo hooyadii u wadaan oo laakiin ku fiican yahay waxbarashada waxa laga yaabaa ilmahan in la yiraahdo quraanka baro way fiican tahay quraanka inuu barto la yiraahdo quraanka xafid isna uu ka soo taagnaado waxa laga yaabaa in ilmahan ku jirto maskax kale oo quraanka ka weyn oo ah inuu engineer noqdo maskax kale oo ah inuu wax ikhtiraco wax adduunka ku cusub inuu sameeyo ayaa laga yaabaa in maskaxdiisa ku jirto marka waxa weeyaan qof walba waa inaynu dhigno meeshuu rabay marka bulshadeena dhan Soomaali ahaan gabigeena dhan waxay naga maqan positionkii saxda ahaa marka aabuhu ama hooyadu aanay waxna baranna ilmaheegii wuxuu la yimaaday ka aqbalaysaa ayuu su'aasha weydiisay oo hadduu wuxuu odhanayaa waxaan baranayaa aabay accounting baan baranayaa accounting waa xirfad uu ku noolaanayo intuu isagu nool yahay laakiin xirfad ay magac uu kaga tegayo maaha isagu dadka kalena ay ka intifaacsanayaan mustaqbalka maaha waana xirfad markasta qof kasta soo barta uu ku bedeli karayo laakiin waxaan dadka leeyahay ku adkeynaya fursaddan oo qaadanaya culumta ay adduunyada iyo ummaduhu ku kala hormareen hal la barto oo hal iska daayo business management-gan iyo business administration-kan iyo waxaan hal la daayo hal la barto software engineering hal la barto civil engineering hal la barto waxyaalaha kale aerospace hal la barto biology hal la barto waxyaalaha caynkaas dadka anfacaya ee waddankeena xitaa meeshan waxaynu ku nahay
مقيم يعني عابر السبيل سو ما هي حديثكي nin safar gaaban ku jira marka wadankii baa tagaysa wadankii waa wadan burburay waa wadan 3 sano ka badan burbursan dadka joogay dad aqoon fiican maadaama aad halkan timido ilaahay fursad ku siiyo wax la rabaa fursadan intaad si niyada uga qaad aad dadkii la tagto wax dadkii anfacaya aad bartid generation ka dambe oo hadda Ethiopia ina la darasa ma gaari karno Ethiopia dadkeedu jaamacadaha iyaga ugu badan markaan arko ninka Ethiopianka wallahi waxa wada bartaan college of science bay ku wada jiraan engineer bay wada bartaan nimankan diyaaraday leeyihiin waxay bartaan college-ka diyaaradaha marka wadankooguna waa wadan aan islaam hayn iyagana looma diiday taasna meesha way jirtaa qofku markuu islaamka yahay fiiro gaar ayaa la siinaya xaqii cilmigaas ahayd oo si yar oo dadmara aan si toos lagu sheegay marka dadkeen waxa oran lahaa waxyaalaha dadka anfacaya hala barto ubax maxaad ku daraysaa su'aashaas wallahi fikradaas anigu dhinac baan waan ka yar duwanahay si kale ayaan fikradaas anigu approach gareyn lahaa waa sax oo way fiican tahay in STEM kala barto whether ay noqoto computer science or technology kaleeto or anything STEM wuu fiican yahay anigu caafimaadkan aan ku jiraa laakiin waxaan oranayaa ilmuhu hadduu doonayo inuu barto business administration hadduu doonayo informatics inuu barto hadduu doonayo ilmuhu xataa waxaan arkay ilmo doonayo inay bartaan art oo artist inay noqdaan rabaan sida hadda wad garanaysin Aamin Caamir he's an artist waxyaabuhu sameeyay waa fascinating bay aniga ila tahay marka waxaan leeyahay ilmaha waxaad eegtaa waxa uu ku fiican yahay oo interestiga uu siinayo wixii uu interestiga siinayna aan ku boorino ku gacan siino ku garab istaagno waayo haddaan annaga waxaan rabno kaliya u sheegno oo niraahno may adigu waxaad noqotaa dhakhtar ama waxaad noqotaa engineer ilmihiina uusan doonayn dentaa waxay keentaa saaqidaadii uu cunugii iskuulkii ka saaqidi karo oo uu oran karo waalidkayga disappointment baan ka dhigayaa oo qalbiga ka aamini karo oo maadaama uu qalbiga taa ka aaminin ilmihii ay waxbarashadii ka baran lahaa art hadda hadduu rabo inuu barto cunuga uu artigii uu heybada ku lahaa oo laga yaabo inuu sawirayo maanta building uu sawir kaliya gacanta ku sawirayo farshaxan inuu cunugii niyadda jabto oo uu yiraahdo aabaha ay hooyada hadday ogaadaan artigan inaad baranaysid oo muxuu jaamacad u tagayaa ma wax qalin lagu xariiqo muxuu jaamacad u tagayaa baa la leeyahay waxaan leeyahay ilmaha aan fiirino cunug walba wuxuu leeyahay quality uu ilaahay ku dhaliyay oo meel uu ku fiican yahay meeshaas uu ku fiican yahay aan ku gacan siino oo aan ku boorino haye maxaad jeceshahay inaad barato let's see options 2-3 option kale ta fiiri meeshii aan markaas ku fiican tahay anagoo kugu gacan siinaya marka cunug walba meesha uu ku fiican yahay aan gacan inta ku siino ku taageerno oo yaanan ilmaha doonin inaan anigu wixii aan rab inaan noqdo inuu cunugayga aan ka dhex arko taas waxaan idhaahdaa ha laga joogsado waalid badan baa waxay rabaan ayaga intay noqon waayeen wixii ayagu noqon waayeen waxa anigu noqon waaye noqon bay leeyihiin cunugaaga ma doonayo waxaan anigu noqon waaye inaad noqotid ee waxaan rabaa waxa ugu fiican ood adigu noqon kartid the best self of you qofka ugu fiican ood noqon kartid inaad noqotid ee aniga waxaan noqon waaye noqo taas anigu waan ka soo horjeedaa xogaa yar waan ku khilaafsanahay barqad waxaan leeyahay cabdinuuro waa run inaan wada engineer noqono waa run inaan wada dhakhtar noqono inaan wada psychology noqono aniga waxaan doonayaa inaan counselor iyo therapist noqdo in badan baan caafimaadka ku jiray that's why aan psychology-ga u aaday because baahidii aan arkay shaqo ahaanaan waxa uu qabtay dadkii oo la shaqeeyay waxaan arkay meeshii baahida ka jirtay kabacdi baan iskuul baan ku noqonayaayo meeshii baahida ka jirtaan rabaa inaan wax ka daboolo marka xataa ayaga experience intay helaan bay hadhow isbedelayaan laakiin marka hore gacanta aan ku siino meeshay ku fiican yihiin marka waan kula qaatan malinaya waana sheegay haddarna waad ku saxan tahay inaad halkaana iga saxdo laakiin waan sheegay tusaale yaroo kale aan siinaya axmed wuu garanayaa waalidiinteenna marka wadankii soomaaliyada joogay ilmaha kubadda ciyaara waxaa la odhan jiray waa saaqirta axmed kubaddii maanta caalamka waxay ka tahay ninka ciyaartooyga kubadda ciyaara maanta ninka dhakhtarka ee wadnaha qala ayuu ka lacag badan yahay waad fahamsanaa tusaale waxaan kuu siinayaa nin muslima oo ciyaartooya oo Saadiyo Maane la yiraahdo tuulu deganaa wuu cagcada aabihii iyo dad culimo ah ka yimid wadankaasna waa wadan iska muslim Senegal waxa lagu cadaadinayay war wax baro quraan baro buu sida interview BBC Sport ayuu ku jira wada arki kartaa quraankii baradii inuu ka cararo iskuulkii baraa inuu ka cararo isagoo cagcad buu tuulu tagay maantana waa ka ninka caalamka ah laacibka masaajidada dhisaya meel kale kaga soo baxay dacwadii oo asharkayga waa leeyahay guriyo aqalli masaajidu dhisay iskuulu dhisay wax soo dhisay marka midda waa ku waafaqsan oo kana tusaale waa aan iskuul ba tagin laakiin xirfadda kale la soo baxay aad ma sida su'aasha kale labadii bay weydiinaya waxay tahay halkan fursad ayaa taala qofku wax ku baran karo dawladii ay ka bixinayso
laakiin waxaa soo haray waalid aan aqoon lahayn iyo ubad bannaan jiif ah arrinta iyada ah see loo xallin karaa wallaahi fursaddu way taallaa hadda aniga waxa weeyaan jaamacaddii waxaan dhameeyey aniga oon 1 penny oo deyn ah laygu lahayn waa fursad opportunity qaali ah oo adduunyada meelo badan aan laga helin weeye taas ma aha inay keliya financial aid kaaga bixinayso waxaa yaala scholarshipyo haddaad tahay arday wax baranaya oo waxbarashadii ku fiican oo active ah oo macallimiinta iyo professorada arkaan iyaga waxay ku suggest garaynayaan scholarship hebel weliba annagu waxaan nahay dad minority ah waxaan nahay muslim waddanka waxaan ku nimid qaxootinimo waxaan nahay minority waxaan noo fursado gooniya oo dadkan annagoo kala weliba lagu soo taakulaynayo ayaa buuxa marka lacag iyo scholarship wuu yaalaa waa inaan annagu noqono dadkii dooni lahaa oo raadsan lahaa opportunitygaas aan annagu raadino caruurteena waxay jidadka u jiifaan oo iyadoo opportunitygaas ay taalo oo waalid badan ay wax baraneen waa inaan istusno axmed iyo cabdinuurow waxaanu ka nimid reer miyi asalkeenni marka psychology iyo tarbiga dadka markaad eegto oo akhriso waxay ku leeyihiin it takes generations dhowr generation in oo mentalityga anigu reer miyi baan ahaa aan xataa ka baxno waxay nagu qaadanay generationno annagu marka waxaan nahay hadda first generation halkan yimid first generation ilmaha annaga dhalna aniga hadda cunuga halkan ku dhalay waa 19 jir maanta marka haddii aan anigu ku fakerin inaan anigu isu soo baritaaro keligay ilmahaygina jaaniskii wuu ka leexanayaa waayo for example ilmihii waxaan ku korinaa haddaa fiirisid waa multi sectional way arrinteena meelo badan ay gelaysaa waxaan ku korinaa ilmaheenna annagoo dan yaraan nimid guryo waxaan degnay dowladdu naga caawiso guryahaas dowladda naga caawiso waxay noo geysatay dhibaato badan oo ubadkeennii iyo waalidkiiba soo gaara maskaxiyan xataa inay hoos noo dhigtaad moodaa waayo markii ilmahaagii lagula korinayo dowladdu kula korinayso adiga xataa maskaxiyan meel fiican ma gaarsiisnaa niyadaadii marka seebaan uga baxnaa oo annaga isku dhisnaa oo uga baxnaa systemkaas oo dowladduna soo caawinaysay 5 sano ugu horeysa waddankan aan joogno xaqaa u leenahay laakiin hadday 10 ilaa 20 3 generation baan ka tiriyey mar aan samaynayay research hooyo degtay guryaha dowladda cunugtay ku dhashay ay ku guursato ayadana gabar ku dhashay waa 3 generations oo government housing ah marka taas waxay ka mid tahay dhibaatooyinkan haysta oo u baahannahay bulshada inaan niraahno sida uga bixi kartiin waa through education waxbarasho dadkeenu business ay jecel yihiin qof walba wuxuu rabaa inuu dukaan furto ama xalaalmiid furto ama business furto haddaa fiirisid ama dukaan dhar laga iibsado oo 10 dukaan isku wada eg waxaa idhahdaa food stamna wax looga gato Turistan see ku soconay marka waxaan idhahdaa is good in entrepreneurship aan leenahay oo dad waxaan nahay horta resilient ah maasha Allah oo guulo badan gaaray laakiin waxaan idhahdaa haddaad business mind leedahay baro sida lacagtii businesskaagii meeshay galayso iskuul u aad xoogaa investment ku samee si qofka adiga xataa kuu samaynaya lacagta uusan asaga kuu qiyaamin kala baro marka waxbarashada inaan waaridka kow aan annagu isbaritaaro kow kabacdi baan ilmihi wax ku bixin karnaa opportunityga way taallaa laakiin haddaanan raadsan opportunitygu nama soo raadsanayso fursaddii taallay waa inaan annagu dalabno waa inaan annagu doonno waa inaan waaridka ku wacyigelinno waxbarta waxbarashaduna hadba heer bay leedahay waxbarashadu keli xataa wax akhriska hadda waxaan rabaa inaan dadka ugu booriyo wax akhrisku xataa ma aha kii buugga haddaadan akhrin aqoon hadda waxaa jira dhegaysi buuggii oo dhan oo dhegaysanayso gaariga intaad wadid oo ah e-books aniga e-bookska hadda waxay yihiin sidaan jaamacaddu aaday the best thing wallahi whoever invented baan dhahay e-bookga ilaahay muslim ha ka dhigo hadduu xataa muslim ahayn qofkaas waayo intaad gaariga ku jirto commuting ayaa dhegaysanaysaa intaad sheeko ku jiri lahayd dhegayso maskaxdaada kobci marka waxbarashada anigoo dhan waan fahansannahay waxaan leeyahay waaridku opportunityga way taallaa haddaadan garanaynin meelaa ka bilowdid fadlan dadka annagoo kale ah oo soo maray waddadaas dadkaa la xiriir waanu kaa caawinaynaa tallaabo walbood u baahan tahay iyo meeshii ku habboon sida ay tahay annaga waxaan rabnaa inaan u istaagno oo aan dadkii akhbaarta iyo fursadda aan helnay inaan u soo gudbinno oo la wadaagno diyaar baan u nahay maasha allah cabdinuur axmed ubax baaba hadalkii oo dhan ba dhammaysay horta waxaan u sheegi lahaa marmarkay ka yara booday dadka inta badan waxa lagu qufulaa oo qalbiga lagu xiraa iskuulkii waa lacag waa dayr waa barrier
lagu soo wareejiyey laakiin qofku markuu arko lacagtaas ilaado qof baa lacag lagu leeyahay wuu cararayaayo meeshiiba wuxuu noqonayaa cirib jaan dhigtay wuxuu leeyahay warina aan deyn geli maayo lacag geli maayo alxamdulillah wax siday sheegtay aniga deyn layguma laha laba majorna waan ku dhameeyey meesha dhexdeeda laba major oo midna cyber security yahay midna uu yahay information technology yahay baan ku dhex dhameeyey labadan wax lagu leh marka lacagtii xageed ka keenaysaa marka hore outsider baato waxa tay nin dibadda ka jooga oo lagu xulay ama maskaxdiisa nooc min guumaysi lagu qufulay iskuulkii hadaad gasho deyn baad galaysaa lacag baad galaysaa maalin kasta interest baa ku koraya waa wax loogu talagalay dadka in lagaga nicmada lagaga ceshado aniga aragtidayda aniga tayday gaarka laakiin marka aad meeshii soo dhex gasho waxa yaala resource badan baa yaala resource-ka yaala waxa weeyaan qof kasta oo Mareykan jooga ama muwaadin ha ahaado ama yaanu ahaan wuxuu leeyahay wax la financial aid oo dawladdu ugu tala gashay oo ah 600% ama 6 sano lacagta iskuulka in laga bixinayo si uu u barto naftiisa xirfad uu ku shaqeysto oo reerkiisa iyo ubadkiisa uu ku anfaco oo ku shaqeysto marka taasi waa option qofka u yaala mayana hadduu qofku yiraahdo financial aid kana waan isticmaalayaa seen wax kale u helaya waxa jira iskuul waliba wuxuu leeyahay grant uu leeyahay iyo foundations buu leeyahay iskuulka hadday ku arkaan nin dadaalaya macallimiintaaba kugu soo refer gareynaya dadka kale shaqaalaha marka ka qayb gasho meelaha wax lagu qaybsanayo iskuulku xafladu sameeyaa eventiyu sameeyaa waxa laga hadlaa sida qofka markuu shaqo tagay rasiimi loogu qori lahaa sida wax laga hadlaa resource-ka yaala waxa jira hay'ad kale oo la yiraahdo Trio oo ay federaalku leedahay oo dadka oo ka weyn 26 caawisa ama barantiga wax baranaya sidoo kale iskuulku wuxuu leeyahay haddii aad ka warwarsan tahay ilmahayga halkeen cunto ka keenaya meel wuxuu leeyahay cunto ay taalo oo cuntadii baad ka qaadanaysaa adeegii sonkortii bariiskii daqiiqadii oo dareerkii oo soo mari jiray anigu waan soo qaadan jiray waxa jiray saaca kalluunka iyo sonkortii bariiskii saliidda xaafadda baa looga baahnaa simar intaan hadhow waqti kale ugu noqon lahayd dukaan kale mar taa qudheedu waa saacidaad sidoo kale marka lagu arko nin wax baranaya inaad tahay wax lagu oranayo gaaskii baanu kala bixinaynaa intaas oo resource jira laakiin waxaad moodaa bulshadeena Soomaaliyeed in laga indhastiray waxaas oonay arkaynba oo qalbigoodu meel kale arkayo waa sax qalbigoodu wuxuu arkayaa inay xamaal noqdaan laakiin xamaalka waan ahaan jiray waagii hore waxyaalihii motivate gareeyay waxa ka mid ahaa oday la oran jiray Thomas oo Mareykan cad baanu wada shaqayn jirnay meel company kamid ah kambaniyada ugu weyn Minnesota oo la yiraahdo Triumph baan ka wada shaqayn jirnay waa waqti hore markaas aan arkay odaygiyo ooyaya oo cabaadaya maalin waxa ku wada Thomas maxaa kugu dhacay see wax u jiraan ninkan xaaladiisa wareysanaysa waxa ku leeyahay maxaa kugu dhacay xanuun baa lagu sheegay ma geeri baa kugu dhacday maya buu yiri waxa igu dhacay buu yiri breakan ku waramaya hadda shaqaynu gelinay waana maanta muurkayga ma fiicnaa markaan breakan ku waramay breakii uu ii waramay ala kulli shay wuxuu yiri niyahow shaqadii wax la siiyay retirement wax lagu wad weynaatay gurigiina mortgage-kiisa ma bixin maanta adiga nin yare wax barabi igu yiri ninkaas waa nin cadda ma sha Allah markaad xamaal noqoto xamaalkii company-gu markuu xoogaaga qaato berito loo iska sii kaadinay laakiin markii aad meelahan wax lagu baranayo aad timaado aqoon baad korsanaysaa dadkii aday ku baahnaanayaan xitaa adigoo nin weyn waxa lagu leeyahay consultant noqo lagu oranaya meel kale aad wax ka helaysa marka dadku waxaan kula talin lahaa wadiyo dib hawo fadhina iskuulka lacagta la bixiyaa way jirtaa hana ilow lacag kale dawladdu ku siiso financial aid la yiraahdaa inay jirto marka taas aad isticmaali kartaa resource kale iyo caawimaad kale iskuulka tal ayaad isticmaali kartaa waxyaalaha waxaad kaga faa'iideysan kartaa inaad tahay qof madow waxaad kaga faa'iideysan kartaa inaad tahay qof muslim waxaad kaga faa'iideysan kartaa inaad tahay qof qaxoontiye marka fursadahaas oo dhan baad haysataa shaydaanka iska naara hawsha hala galo ayaan oran lahaa aad baad u mahadsantihiin su-aashaan ugu daba marinayaa iyo tala guud ood markaad ka jawaabtaan aad Soomaalida sii doontaan su-aashaan waxay tahay waxaa jira waalid badan oo ilmahoodu ay isteedyo kale waxbarasho ka helaan oo waxaa laga yaabaa state Utah hadda joogaa let's say caafimaadkoo kaleeto inuusan lahayn oo Washington Seattle la yiraahdo caafimaadka ha loo aado laakiin ilmihii laga haro oo cunugii kaliya la diro waalidkiina uu ku haro Utah kaleeto tusaale ahaan ama degmar fog oo qofkaasi meesha uu degan yahay reerku degan yahay ka fog laakiin isla gobolkii 3 saac ama 4 saac loo soconayo kaleeto jaamacaddii state-ko kaleeto uu qofkii aado ardaygii aado oo cunugii uu haddana meeshaas ku noolaado arrintaa iyada ah khasaarada iyo faa'iidada ay leedahay wax baan ka hormaraya arrintaas horta si hadda u fiirisid
waarid kasta way ku yar adag tahay aniga hadda hooyan ahay jaamacad 2 sano hore u dhameeyay inankaygu wuxuu apply gareeyay computer science jaamacaddan hadda UW wuxuu way soo aqbali waayeen dib ay u dhigeen marka we have that discussion exactly hadalkaasaan ka wada hadalnay wuxuu igu yiri jaamacad u jirta meeshan hadda deganahay 4 saacadood oo isla Washington ka tirsan ama state kale haddaan ka helo computer science kama aadi karaa marka deep down hoos ahaan waxaan leeyahay walwalka hooyanimada ay igu jirta oo waxaan leeyahay alla state kaloodan ka warqabin xaaladiisa waxay noqon doonto dhinac kale markaan u fiirshana maanta markay jaamacad gaaraan there's time waxaa jira ay noqonayso ilmaha inaan siino waa sida shimbir baalka aad ka haysid markuu yar yahay inaad u ogolaatid inaad baalash inta u sidaysid ay ayaga duuli karaan waa muhiim waana lagama maarmaan waayo berito qofkii aad soo kobcisay haddaad foundationkii kasoo dhistay ilmihii go'aamada uu gaarayo waa go'aamo macquul ah mistake bay samaynayaan ha aniga mistake soo sameeyay markaan soo korayay waan soo maray mistake waan soo sameeyay mistake-yada sameeyay casharadii aan ka bartay ayaa waxay ii noqdeen wax aan ku dabaqo oonan mistake-gaas oo kale ku soo celin marka ilmahayga waa inuu barto inuu mistake samayn karo hadduu mistake sameeyana aan wax ka qaban karno communication-kan inuu noo furayo wada hadli karno marka waalidka waxaan leeyahay yes waa ka walwalaynaa yes waa sax laakiin ilmaheennii haddaan hoosti ka soo dhisnay oon si wanaagsan u soo kobcinay oon barnay inay nala communicate gareeyaan mistake sameeyaanna aan anagu u taagnaan doono ilmahaaga inuu aamino weeye qalad kastoo kaa dhaca waan ku garab istaaganahay adigu ma aha dhibka qaladka waa bini'aadanimada uu ka dhacaa waanan xalinaynaa hadduu ilmuhu inta aaminsan yahay wixii la soo gudboonaadu kula soo wadaagaya marka waxaan leeyahay hadduu ilmaha helo chance iyo fursad state kale anigu waxaan ku jiraa waalidka oranaya waan ku gacansiinaya waana la garab istaagaya mistake sameeyaanna waa waxay ay cashar nolosha u dhisaya hadhowti iyaga inay dad noqdaan iswada anigu wadi maayo weligay marka waa inuu ilmahayga noqdo inuu iswadi karo anigu hooyaaba isoo dhalo isoo koriyay point waxaan gaaray noloshayda aan anigu iswado oo iyagu ayaan i wadin oo iyagii tala iga soo raadsadaan marka ilmahaygana saasoo kale waxaan rabaa maalin uu gaaro inuu iswadi karo anna aan ku kalsoonaado sida u soo kobciyo u soo koriyo marka hore aan soo kobcino ilmaha si wanaagsan si hadhow aanan uga walwalin go'aamaday gaarayaan jaamacaddana meeshii uu fursada ka helo waa inaan ilmaha ku gacansiino kana warqabno communication-kan aan dhisno siday nolola wadaagaan wax walba ayagoo falantiin ah annagoo ka qasbo cabdinuur axmed waxaan odhan lahaa arrinkaa su-aashaadna weydiisay laba ayaan ka odhan lahaa inta badan waxaa dhacda dadka Soomaaliyeed ay dhaqan u leeyihiin ilmo gurigii uu joogo waxba ku baran waayo waddan kale loo diro waxbarasho u tagaya inaan xaqiiqnama waayo xanuun baynu daweynaynaa waa inaynu marka dawadii la helaba wixii la helaya marka waalidku waxa qurux badan inuu is weydiiyo waniyo ilmahan high school halkan ku dhammayn waayey haddii aan magaalo heblaayo u diro ama waddan heblaayo weliba kharash bixiyo soo wax u baranaya صح laakiin inta su'aasha waxaanay door bidaan inay ilmahoogii wixii ay dhaqaalahayaan ay kula garab galaan marka taasi waa mid aan anigu yar dhaliilayo ta kale ilmo marka la sii daynayo sida ay walaashii ubax sheegtay waa shimbir baadka lahayo weeye shimbirta haddii aad sii dayso way fakanaysa marka waxa weeyaan ilmaha la sii diraya waa ilmo lagu kalsoon yahay akhlaaqdiisa ma yahay mise ilmo aan lagu kalsoonayn ma yahay inta badanna ilmaha waa in vetting lagu sameeyo ama la baaro cidda ay saaxiibka la yihiin intaanad weli dirin waa inaad investigation ku samaysaa warniyo ilmahayga iskuulku tagaa iskuulka ciddo darsiga ka qaata waayo macallinku wax ka barta waa inaad ogaatid yuu yahay waa macallin akhlaaqad bixinaya bise waa macallin akhlaaqad darro bixinaya war ilmahayga ardaydu kalaas kala dhigtaa noocay yihiin markaad waxaasoo dhan macluumaadkaasoo dhan aad soo ururiso ee aqalkiina tarbiyadiisii ka og tahay at the same time aad og tahay saaxiibadiisa kale oo ku xidhan yahay ilmahaaga kalsooni baad ku siin kartaa waa sii dayn kartaa laakiin mid markii horeba ahaa allow sahal xaalkiisu oo ku yidhi waxaan rabaa Utah jooga waxaan rabaa in la diro Minneapolis cashar ma tegayo hawl kale uu tagaya oo adiga ku tabarsan doonta marka waxaan oran lahaa waalidiintu inay ilmaha ku adkeeyaan in horta meeshan joogo oo wax ka barto meeshan uu joogo lagu dhaado iga tus aan ku diray meeshaad rabtaan ku geena bal horta meesha wax ka keen taas ayaan horta ku xidhan lahaa oon kula talin lahaa masha Allah masha Allah waa aad baad u mahadsantihiin tala guud ubaxay asna raggu siin doonaa ragga iyo labada dhinacba
gabadha Soomaaliyeed ee 7 cunug iyo 8 cunug haysata ee wadankan 20 sano 15 sano degan wali aan luqadii aqoon ilmaheedii inta soo mar iskuulka laga xadiday inay aadaan laga joojiyay high schoolkii ka daroob gareeyay suurtagal aysan ahayn inay maaragtay iswada fahmaan maxaa tala siin lahaydeen ninku waa la mid gabadhuna waa la mid marka waalidka Soomaaliyeed dhibaatadaas ay haysato wali ilmihii iyo iyagii iyo isfahmi la yihiin xaaladii waxbarashada tala guud ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo wallahi horta ilmaha ma markii marxaladda ay iyagii adigii dhagax ama building idinku dhex dhismo oo iyaguna ay dawlad gooniye yihiin adiguna dawlad gooniye aad tahay oo labadiina u baahan tihiin wax turjumaadii luqadda ma ahee si kastoo kale in dad idin dhex galaan aa u baahan tahay mise markii hore laba siba u kala qaadayaan marka hore horta waajib waalidka waxaana saaran inaan ilmaha annaga aan ka soo shaqeyno waxaan nahay macalinka koowaad inaan ilmihii usoo kobcino si wanaagsan diintii annagoo kaashanayna dhaqankeena wanaagsan annagoo kaashanayna ilmehena inaan si wanaagsan usoo korino kow hadday taa naga sirgaxanto oo kala naga sirgaxanto ay noqoto inaanan ka soo bixin waajibkaas oo suunana noo dhaafto dan waa inaan la kaashano ilmihii dadka noogaga cilmi roon oodan qab uusan kugu jirin dhibaatada mar walba la kulmaan waalidiinteena badankooda waxa weeyaan waxaa ku jira qab ah maanaad i baraysaa sidaan ubadkayga u koriyo waxaan ku idhaahdaa aniga ayaa maalin walba waxaan qaataa galaas iga caawiya sidaan ubadkayga ugu noqon lahaa hooyo wanaagsan yes manual ma jiro markaan ilmahan intaanan dhalin jaamacad inta tegey kama soo bixin ama galaasyo ma soo qaadan how to be parent ama sidee waan u noqon karaa hooyo wanaagsan ma soo baran ilaah baa i siiyey waa ii qornayd waan iska dhalay ilmaha markaan dhalay kabacdi ayaa waxaan rabaa inaan barto sida u kobcin lahaa waalidiinteena badankood marka maysan soo helin si wanaagsan oo ilmaha sidee loo koriyaa hadda laakiin waa inaanan ka xishoonin inaan dhahno xeerihii fandhaal waa iga kala dhaceene xagee baan ka bilaabaa war barkadow maxaa igu caawin kartaa cabdinuurow axmedow adiguna maxaa igu caawin kartaa yaan la tashadaa in aan mar walba aanan ka weynaanin in aan weydiisano caawis inaad tiraahid halay caawiyo markii ilmihii aad adigu waxba ka qaban karin laakiin haddaan iskala weynaano waxba dee noo hagaagi mayaan oo aan annagu nidhaahno ma waxaa lii sheegayaa sida ilmahayga aan ku koriyo ilmaha iyo waalidka hadday carqalad soo kala dhex gasho ay isku mila yihiin dhaqamadii halkan iyo dhaqankeennii aan haysano anigu anoo waxaan imid teenager halkan waan xasuustaa teenager markaan ahaa oon joogay Soomaaliya intuu qaxi dhicin sidaan ahaa iyo markaan halkan imid sida ay tahay teenagernimadooda waa completely labo farqi weyn baa u dhexeeya aniga waxaa laygu soo koriyey in sax iyo qaladba aanan oran karin maya oon waalidkii challenge gareyn karin oonan oran karin hooyo waxna waad ku qaldan tahay aabba waxna waa ku qaldan tahay afkayga xataa ma soo mari karin halkan laakiin teenager aan korinaya aniga 3 carruur aan korinayo waxay igu dhihi karaan hooyo waxa waa ku qaldan tahay waa inaan u furo buuga oon idhaahdo haye iga dhaadhici oo negotiate garayno ani iyaga inta fariisano doodno hooyaday markay aragto halkan ay nala joogi jirto waxay tidhahdaa xagee lagu arkay ilmo kula doodaya oo intaad la doodid iyagii sax siinaysid waxaan idhi hadde maxaa sameeya anaa ku dhalee samee wax walba qalad iyo sax ma bari kari society ku nool yihiin waxaan rabaa inay berito dadka wax la qaybsadaan marka ilmihii aan dhalnay annaga halkan ku korinayno dabeecadaha ay yeelanayaan ma aha dabeecadaha cunuga 18 jira oo Soomaaliya jooga uu yeelanayo taasna ma aha qalad ilmaha sameeyeen waa waalidku inuu horta taa iska dhaadhiciyo oo aniga aan iraahdo ma ka sugi karo cunuga 18 jira Soomaaliya jooga soo dhaqbaayo inuu cunuga 18 jira oo halkan jooga u dhaqmo marka seebaan isku waafajin karnaa oo compromise anna u sameeyaa ilmihiina compromise u sameeyaa meel dhex isugu imaanaa negotiationkaas marka taasaan oran lahaa waalidka inuu mar walba ilmihiisii iyo asaga uusan isku qufulin aniga sidaana la ii soo koriyey weligay hooyaday waxaan kuma samayn karo anigu sidaan uma dhaqmin taas inaan iska ilowno ilmaheenu kama duwana ilmaha Mareykanka hadda ku dhashay cunug kale Mareykan iyo ilmaheenu waa isku wada mid ee aan ula dhaqanno sida shaqaynaysa aan dhirahno maxaa shaqaynaya ma aha sidana ah adigu waxba ha judgment ma suubin what is working for us how can we make it better judgment so ilmihi aan ula shaqayna oran lahaa insha Allah isfahanka si uu ku dhasho aan ayagina aamino Abdinur axmed waa su'aal weyn waxaad la weydiiso oo ah tii aan runtii waana guudaa dadkana aan siin lahayn
horta cilmiga barashadiisa waxaa ka horeeya waxyaalo badan oo ay ka mid tahay al-ammaana runta iyo inaad ilaahay ku xidhnaato siduu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku yidhi suuratu lmujaadala yarfacu llaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay kor ayuu qaadaa rumayntii marka halkan waxaan ka wadaa qofku markuu daalib alcilmi noqonayo sidii imaamu shaafici oo kale waa kii dee maalin uu gabadha uu cawradeeda arkay waa kii waxba baran waayey xifdigii ka guuray yacni waxaan ka uga geysleeya qofka horta waa inuu xalaal cuno yacni ilmihiisna uu xalaal ku tarbiyadeeyo isaguna noqdaa qof xalaal cuna marka qofka waxa u fududaanaya waxbarashaduna waxa weeyaan waana lagu ducaystaa rabbi sidnii cilmi baa la yidhaahdaa wax dhammaatana maaha wax laga gaboobana maaha laakiin waxaad moodaa bulshada soomaaliyeed inagu ka soo jeedno in uu aad u saameeyey wax la yidhaahdo xishood iyo wax la yidhaahdo isla weyni kuwaasna nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ayuu inooga digo oo ahaa saddex wax ma bartaan ninka isweyneeya iyo ninka xishooda iyo mid kale ayaa iga maqan baan jeclaha laa yatacalamaan soomaheen marka waxa weeyaan haddii aad qof walaalkaayo wax kaaga cilmi badan aad su-aal weydiiso ceeb maaha was'aluu ahlildikri in kuntum laa taclamuun waa ayad quraan ilaahay weydiiya kuwa idiga aqoonta roon haddaydan waxba garanayn ceeb maaha laakiin qofkii soomaaligii waxaad moodaa nin haan maran oo kana xishoonaysa inuu qofkii wax weydiiyo waxa laga yaabaa ubax hadduu wax weydiiyo oo yidhaahdo ubaxay dhibkan ay haysa ubax waxaan ogahay inay tahay gabadh akhlaaqad leh waxaan ogahay gabadh integrity leh gabadh wax baratay inay tahay waxaan ogahay informationka qofkaas uu sheegay inaanay cid kale la sheer garanayn ayaan qof kalsoonahay waayo waa aqoonti laakiin qof aan waxba baran markaad wax la sheer garayso waxa laga yaabaa waxaagii inuu adiga brit hore kugu weeraro marka waxaa qurux badan dadku inay hore u yimaadaan oo dadka yidhahdaan waniyahow diinteenu sanay farasa bal wax ii sheega waxaan barto marka waa la hagayaa meeshii saxdii baana lagu ridaya waxaanan cumuum gaar ahaan dadka soomaaliya oo dhan guud ahaan ula hadlayaa waxbarashadu ceeb maaha waan ku soo celiyey ceeb maaha waa wax adiga kuu fiican adduunya aakhirana ku anfacaya waa waxaad leedahay maalintaad dhimatana godka kula gelaya markii aad godka gashana waxa ku anfacaya waayada sadaqatul jaariya alcilmu yantaficu bihi nnaas soo mahay cilmi aad ka tagtay oo dadka anfacaya cilmigaasi maaha cilmi axaadiis maaha cilmi tafsiirna maaha cilmi quraanna maaha waa cilmi kale ood maanta samaysay laga yaabo waxaad samaysay software app baad samaysay dadku ay xawilaadi ku dirsadaan lacagta waddankii in qof kastoo wax ku dirsanaya adigu ku anfacaya because waa waxaad uga tagtood ikhtiraacday wey marka waxaan dadka kula talin lahaa guud ahaantood dadkeena Soomaaliyeed inay wax bartaan waan ogahay waxa yaala dhibaatooyin badan albaabo badan iyo darbiye badan baa yaala anigu darbiyadeeda Axmed baan uga sheekayay mar dhaweyd maanta sababay ragga waa ninka kufa haddana ka soo kaca haddaad kuftana ceeb maaha haddaad ka soo kacdana ceeb maaha waayo wax walba waxaad ka qaadanaysaa waayo aragnimo laakiin waxaad dulinimo ah haddaad wixii la daristo ama aad saaxiib la noqotood haysato ayuunba dulinimo anigu waxaan ka imiday waxaan ahay first generation oo xaafadayada wax bartay ayaan ahay fursad uma helin markaa waddankii joogay sababo badan oo dagaalo sokeeye iyo qax iyo goorid iyo riwaayadaha lagu jiray waxaan noqday nin wax baalasheeya baan noqday kabaha waxaan noqday nin gaariyada sifeeya waxaasoo dhan waa shaqo laakiin Soomaalidu waxay u taqaanaa ceeb bay u taqaanaa shaxaadka ayaa ceeba anigu fikradan aaminsan marka waxaas markaad ku soo korto eed halkan timaado waddankan fursad baa lagu siiyey aan dadka kale la siin fursadaas oo ah fursadda deganaanshaha lagu siiyey inaad degtid waa inaad tiraahdo niyo waddankan bulshooyin badan baa ku nool oon kala dhaqan nahay oon kala diin nahay oon kala aragti nahay seen ula jaan qaadi karaa dadkaana waxaa isku keeni kartaa waa aqoonta weeyaan haddii kale wadda khaldan baad qaadaysaa oo hadhow tole adiga aad dambarsanaysid oo dhibaato badan kaa soo gaarayso milyanis baa jira Soomaaliya waddanka yimiday inaga soo horeeyay reero fiican ka dhashay reero sharaf la ka dhashay laakiin aan helin wax wacdiya ama toosiya ama wadada saxda ah ku rida oo maanta xabsiyo ku jira marka dadku waxay u baahan wax wacdiya oo la waxbarashadan qofku waxay u furtaa indhaha ayay u furtaa war hadda ayaad fursad haysaan inta aan la gaboobin anigu iskuulka markii aan tagay rag baan kaga tagay darbiga wali way joogaan way nool yihiin alxamdulillah halkii way joogaan Soomaa ubax sidoo kale ma jiro kusoo wali way caafimaad qabaan ninkii dhinta nooga sheekay oo odagu hadalka ka yiri halkii bay wali joogaan Soomaa anigu waan ugu laakiin maanta waxaanu kala nahay laba dariiq baanu kala haysanaa
wadi fansama wala ixtiraamaya naftayda lacag fiican baan u samaynayaa shaqo aan dhidid ahayn oo xamaal lahayn baan gelaya saaxiibkay wali xamaalkii ku jira marka waxa la leeyahay walaalow war waxa ka soo bax war hu hada iyo waxaas wax meel fog ku geynaysa maaha war waxa weeyaan dadka wax bartay la xiro waxa weeyaan page cusub furo ilaahay subxaanahu wa tacaala toobada waa aqbala oo haddaad tiraahdid iga adcuuni astajib lakum ibari anna waa idiga ajiibiye istighfaar la kaalay war wixii hore ku jirnay riwaayadii ka soo baxo halkan buugan cusub ilaahay wuu ku furayaa weysayso shaydaanka iska naar laakiin go'aan yeelo inta badan dadka waxaan u sheegayaa Soomaalida ah waxa ka maqan shayga la yiraahdo al-azima decisionka go'aanka ka maqan waxaan ku arkay meelo badan baan ku arkay waxa jirta meel jiimo oo ilaa anigu hadda aan tagay 7 sano waxa igu yimaadaan markuu dhakhtarku xanuun ku soo sheego dhiigkar iyo marka lagu soo sheego ama soo kor ayay ku imanayaan ku leeyihiin inaan sidaadoo kale noqdaan rabaa wuxuuna rabaa inuu isla maantaba noqdo maantood beri yar qaaday in wixiina wax maanta noqonaysa maaha waa waxa u baahan investment in la geliyo waqti la geliyo time la geliyo waxbarashaduna waa sidoo kale dadkeen waxay moodayaan caawa marka iskuulka la tago in caawa shahaadadii la helayo la taas maaha waxay u baahan tahay sabir bay u baahan tahay jid baad maraysaa qodxa dheer leh jidkaas soo maray waxa weeyaan war kaligaa baad reerkiinii ka joogtaa maray kale maad warshadaha hilibka tagtid waa qodxihii mudayay ma dadkiina caawisid maad hooyadaa guri u dhistid maad aabbaha ma dadkiina keentid waa aynu dhaqan u leenahay laakiin waxaan haystay aragti ka duwan aragtidaas oo alxamdulillah maanta reerkaygii waan keeni karaa mayana iyagoo halkoogaa joogaan maanta ku filan laha haddii ilaahay caafimaadka iyo nafta ii daayo wadi fansama laakiin haddii aan sidii hore ku jiri lahaa oon toodii qaadan lahaa iyaguna waa kadeednaan lahaayeenanna waa kadeednaan lahaa soo maha labadayduba wasla kadeednaan lahaa marka dadkiina waxaa ka maqan commitmentiga shay hadday bilaabaan waxaad arkaysaa dad badan oo college ka bilaabay oo iyagoo aan dhammayn ka tegey because when you taban waxaad arkaysaa dad badan oo college sabirkii uu ka maqan yahay marka waxaa odhan lahaa war ilaahay barya war sabirka u noqda war wixii aad bilowdaan waad ka gungaaraysiin diinkuba dawacada uu ka badiyey bahalka aayar haddaad u socoto wixii waad gaari laakiin maaha maantaan bilaabayaa berina waxaan noqonayaa PhD wallahi ma dhacdo waa garanaysa dadka kale wax bartaan garanaya ma noqonayso wadada marsa wado qodxa dheer dad badan baa ku carqaladaynaya iskuulka dhexdiisa sometimes carqalad kala kulmaysa oo nimankan cadaanka marka ku arkaan adigoo dadaalaya ayaa lagu adkeynaya leeyahay warkan uu soo khaldamay aqalada soo galay agta dhulka lagu dhufanaya markaad Soomaaliya haddaad xanaaqdo oo tiraahdo maya meeshii waa inta la rabaa systemkii baa laga madoobeynaya waxa lagu gelinayaa violence aniga way igu soo dhacday markii laga yaabay ayaa la waabsaday oo liirooriya waxyaalo khalad sameysay markaas ku warba lagu soo caday bal waxa sameeyay waa lagu waayo macallimadii baa iyada daalac loo raaciyo ninkoo waa nif fiican faraha ka qaad wali marka waxay kamid tahay carqaladaha ka mid tahay because qofka caadi wuxuu rabaa inaad gacantaadu hooseyso mar raba inay gacantaadu sareyso wuxuuna u arkaya markaad wax barato nin la tartamaya ama wadankiisa ama xilkiisa ka qaadanaya ama shaqadiisa ayuu ku arkaya marka waxaan leeyahay waxtaasoo leenahay dadkii kale markaynu wax baranno haddii Soomaaliin nahay inaga dib inooga joogtay aynu wax baranno war hal laga kaco fadhiga waxa weeyaan qudwa xasana waa in loo noqdo ilmaha gabadh yar baan leeyahay tusaalaha hadda ubax baa ka hadlaysay maalintii aan qalin jabiyay waa 6 jir way ii timid waxay ku tiri aabo congratulations kolkaasaan yaabo ku ri aabo maxaa ku mutay waxay ku tiri aabo wadiga koofiyad baa lagu xiray waad qalin jabisay wadiga zoom baad ku jirtay maanta waxaan rabaa inaan saas kala noqdo niyadeeda already waxa fadhiistay inay saas kala noqoto marka ilmuhu wuxuu noqonayaa xalku waalidku joogo marka ilmahana qalbigooga hala dhiso inaguna aan wax barno ilaahayna raalli buu inaga noqonayaa islaamkuna raalli buu inaga noqonayaa bulshada la noolahayna wayna ixtiraamaysaa dadkiina waxba la qaybsanayna opportunity markuu yimaado adaa lagaga bilaabaya markaas intaas baa bixila aad baad u mahadsantahay waxaan ku dari lahaa in yar oo ah garaangarta ama dadka agagaarkeena ku heegaarsan waa inaan hubinno inay yihiin dad taageeraya haddaanu rabno guul inaan gaarno dad ayaga nafsadooda meel aanan ku haynin ama naftooda ka dhacay haddaan mar walba ag joogno maskaxda ayay qofkaas uu kaa dilaya hubi marka waxaan leeyahay oo aniga nafteyda iyo qof walba oo hadda la dhegaysanaya aan leeyahay fadlan waxaad hubisaa dad horumar gaaray adigana kugu dhiirigelinaya inaad horumar gaarto circle of friendskaaga ama dadka kugu heegaarsan ka dhigo
dad ayaga naftooda ka dhacday dhinac oo aanan naftiisa qofaan waxba u haynin saaxiib wanaagsan ma ahan qofkaas ha soo dhawaysanoo saaxiib wanaagsan ha ka dhigan waayo horumarkaaga xataa qofkaas kulama uu doonayo marka waa inaan ka fiirsano dadka aan leenahay support system ama haygaarkeena ama circle of friendskeena inaan ka fiirsano oo ma yihiin dad annagana baritaalaya oo haddaan maanta kuula imaado ku iraado cabdinuuro waxaan rabaa inaan iskuul aado inaan ogaado inaad tahay horta qof oranaya maasha allah baarakallah ubaxay marka lagaa rabay waa wax wanaagsan maxaan kugu caawin karaa si aad ku gaadhid haddaad tiraahday sidaas waxaad tahay saaxiibka wanaagsan walaalka wanaagsan oon mar walba ogaanaya inuu agaarkayga ka dhow yahay laakiin haddaa igu tiraahdo ubaxay adoo hooyo ah oo ilmo dhashay oo aanan xilligan saacadan jooga maxaa ku qasbay oo ku dhibay oo ku rafaadiyey oo 4 sano hadda soo socda isku daadaysaa dan markaas waxaad iga dilaysaa maskaxda bini aadankana qof aanan doqon ahayn haddii maanta doqonaad tahay lagu dhaqo qofkaas doqon buu noqonayaa wuu aaminayaa marka aan ka fakarna dadka agagaarkeenna oo wax ku darsanayno soo dhawaysanayno ma yihiin dad horumarkeenna wax ku qaadanaya wax ka qaadanaya mise waa dad dib noo reebaya marka aan ka fiirsano taas muhiim aad bay ila aniga agagaarkayga dad waxaa joogay aad iigu soo caawiyey ii yiri waad gaari kartaa waad samayn kartaa mar horaa gaari kartay adiga unbaa tallaabada u qaadin hore u soco guulo badanaana gaaraysaa dadyow saas ah oo aad u kooban ayaa agagaarkayga jooga marka alxamdulilah ha laga fiirsado dadka aad baad umahadsan tihiin waxaan jecelahay hal su'aal inaad kusoo gabagabaysaan soona koobtaan taas oo ah coronavirus iyo soomaalida iyo mudaharaadyadaan qaaca iyo dabka ka socda caasimadaha waaweyn ee maraykanka oo Seattle ay ka mid tahay iyo Minneapolis Soomaalidu way ku dhex milmeen gabar xijaaban oo wax bilaqaysanaysa oday garle iyo khamiis oo isna ATM fuqsanaya waxyaabo aad u fara badan ayaan aragnay oo halkan ka aragnay maxaa tala ka siinaysaan dadka Soomaaliyeed arrimahaas iyaga haddii aan ku hormaro horta dadka Soomaaliyeed aniga arrintaas program waxaa jira barnaamij aniga waxaa leeyihiin gaaja u geyso Soomaalidu waa baahan tahay ay arrintaasayta waa diiday aniga barnaamij aan sameeyo la yiraahdo taladii talaada jira oo aan ku soo qaatay arrintan laftigeeda maanta aan ku baahiyay xalay aan dhigay marka arrintan ah aan niraahno Black Lives Matter aan ka mudaharaadno kan la dilay yes binu aadanimada wax ka soo horjeeda oo wuxuushnimo ah ayaa lagu sameeyay madowga ah maanta oo muslimna ah dhibaatadaas ku garanaa loo geysanaya laakiin Soomaali haddaan nahay midab kala sooca dhexdeedna buu ka shidan yahay kamana hadalno mana ka dhiidhino boorarna kama qaadano laakiin tan midab kala sooca halkan ka jira safka ugu horeeyaan ku jirnaa inaan ka doodno marka horta waxaan leeyahay bal annaga gurigeena aan hoos u fiirino intaanan dad kale u doodin horta bal annaga dib isu fiirino annaga dadka isugu takoorka badan Soomaali haddaan nahay ayaan nahay dhakhtar ayaa lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho balcad cidi kama hadlin dowlad aqoonyahan wasiir xildhibaan حتى laga taxadirin taasaan ka hadlayay marka boorar uma qaadano markaan annaga qofka annaga dadkeena ah dad baan ku shidnay nin baan gubnay gabar buu guursaday qabiil dartiis dad ku shidnay mana shaqaysan karo wuxuu cunana ma haysto ninkaas marka aaway Somali life matter aaway why Black life matter intaan gaarin Somali life matter horta aan iraahdo taas horta taas uga baxaya midda wax dhaca ah ana dhageysanayay video gabar leedahay 91 baa la joogaa aan bilaqaysanna wax iidiba soo dhaw wariya ilaahay yaqaana marka waa trauma oo psychologically baahidii iyo bilaqadii iyo dhibaatooyinkii ku qufulan ba u maleynaya dadkaas oo maysan helin therapy oo arrintaas ka soo daweeya and I think waxa ku dhacay PTSD oo dib flashback oo waxa ku dhacay malaha ayagoo meesha jooga 91 dhex istaageen maskaxdooda waxaan u maleynayaa ayagoo jooga 2020 ayay dib waxay u noqdeen 91 marka baahi haysta maanta inay dhacaan dukaan ma jirto waa fal xumo waana magac xumo annagoo dhan ayayna taas dhibaato iyo difaato noo geysatay haddaa usoo gudbo coronaviruska waxaad moodaa markii mudaharaadyada dhacayeen in bal la iloobay inuu jiro COVID-19 dadkii sida isku dhex yaaceen aniga isbitaal baan ka shaqeeyaa annagaa yaabnay haddana qof ka hadlaya coronavirus male waayo arrintan baa noogaga wadaatay oo bililaqadii dhaca hadda waxaan tegay dibadda u baxay dukaanadii annaga noo dhawaa oo taargetku ka mid yahay magaaladayda waa la jabsaday habeen dhaweyd hadda taargetkii waa xiran yahay eeriyadii oo dhan waxay moodaa meel laga guuray moolash inay noo furmaanay ahayd bisha kowdeedii male marka arrintan wax badan bay naga bedeshay dibdhacayna nagu samaysay annagoo wax naloo furi lahaa ayay dibdhac nagu samaysay gaajo u haysa Soomaalidana male waa magac xumo
waxaana leeyahay oon ka waaninayaa falalkaasoo kale fadlan yaana laydinku arkin samcadda ha naga hadlaynina cabdinuur axmed waa ubax meel fiican bay ka taabatay horta waxa weeyaan dadkan waxaad moodaa inay iska leeyihiin wax la yidhaahda caadifad waxaan waxba 15 uga hayn bay iskala jiboodaan oo iska boodaan waxaan arkayay haddeer gabadh xijaab saaran oo gaari dhakada ka saarnayd nin baa shalay halkan su'aal iga weydiiyay laada cali boos calan la geeyay calankii la saaray Soomaaliya yar cali boos la yiraahdo baa shalay live iga wareysanayay Facebook live wuxuu cabdinuurow sidoo aragtaa gabadha xijaabkii waxa le gaariga dhakada uga saarnayd waxaan ku oraa nimankan waxay ku dhaqmaan la jiifiyaano bannaan la tuusiyaano bannaan ma garatay Soomaalidu wax mahmaada cod iyo biyo ka badan buu ku qaadaa kiiskayga doonaano iyagoo si kale ugu soo meeraysanaya bay oran doonaan qofkan America inay joogto uma qabanto ay u mudaharaadaysina wax alla waxay u qabanayaan male waxa laga yaabaa nolosheedina halka ka baabaado haddii aan u noqdo dadkan la laayay ama Soomaalida dhexdeeda ah waxa qurux badan horta cadaaladda marka adiga reerkaaga laga helayo dadka la gaarsiin kartaa dad Soomaaliyeed baa lagu laayay Balcad Jawhar meelo badan lagu laayaa dad kale Soomaaliyeed baa maalin kasta la laayaa siyaabo duwan loo laayaa dhiigooda loo xalaashada qofka qof muslim dilana waxa soo dhani waa xaraan weeyaan war inagu baarlamankan la yiraahdo 4.5 ka qudhisaaba xaraana waxa qudhisaaba xaraana markaynu inagu aynu baarlamankeena cadaalad noqono aniga iyo ubax aanu isku mid noqono Soomaalinimada u sinnaano ayaynu dadkii wax u qaban karnaa laakiin inta lagu leeyahay ninkani waa reehbal gabadh ma guursan karo ninkanina waa langaabkanina waa landheere adeer waxyaalahan anigu ugu banaabixi waayo mudaharaadka Mareykanka ka socda waxyaalahaas ka mid ah anigii waa cadaalad fulayna maxaan cadaalad ka raadinaya ana waxba iga 15 hayn oo khasaarahaygana wadata sida gabadha aan sheegayo kale ta kale dadka kale iyagu wax jajabiyay Mareykanku waa kula xisaabtamaya dhawaato ama ha fogaato tusaale ahaan magaalada la yiraahdo Baltimore oo ku taal gobolka Maryland 2014 nin madow waa lagu dilay maxay Brown loo oran jiray dadka sida Minneapolis oo kale waxba la qaystay dhammaan dadkii oo dhan cadaaladda ayaa la keenay waxaan taa tusaale uga leeyahay waxa weeyaan telefoonkaas waxa ku jira waxay iPhone-ka wuxuu leeyahay wax markaad wajigaaga ku furayso facial recognition baa la yiraahdaa markaan Ingiriis ku sheegay waxa weeyaan qofkii target galay ama dukaan kala galay sawirkiisa oo dhan baa la hayaa qof walba oo Mareykan joogana waxa dawladda ay sawirkiisa haysa ama green card ha u doonto ama passport ha u doonto ama driver license ha u doonto waa la ururinayaa marka way smaaj gareynayaan adresskiisa baa lagu imanaya waxa laga yaabaa qof Mareykan lacag laga soo bixiyay oo sponsor for example loo soo gaday oo la rabay inuu mustaqbal sameeyo inuu noloshiisa dhan ku ay caagad caana u qaatay caagad caana ama caagad leena oo dukaan ka qaatay inuu ku way marka dadka waxaan leeyahay war hadda caana laakiin Soomaalida maxaa caanaha iyo fiimtada iyo rootiga iyo maxaa ku koobay qasab baan ka diyaariyay halka analyze baan ku sameeyay halkaas markii uu Soomaaliya qaxo ka dhacay kulli daawadayaashadu waa qasri doonaan qaxo markuu ka dhacay wax la bilaqaysanay nin walba shaqadiisa uu bilaqaystay kii mechanic ha baanadu doontay kii ma garanaysaa rinjiilaha salaamiyo wuxuu doontay rinji kii dhakhtarha kii nijaarha malqacad buu doontay Minnesota waxa ka dhacay anigu waxaan ku sameeyay analyze anigu guriga jooga reerka la yiraahdo madow waxay bilaqaysteen bahalka la yiraahdo electronic iyo kabo reerka la yiraahdo Native American waxay bilaqaysteen chips iyo coke iyo Pepsi iyo waxa Soomaalida waxay qaateen caananido iyo finto waa waxa dawladda Mareykanka meesha gurinaysa walba waxay gaashaa waa laga ilaalin doonaa ma garad intaas waxaan anigu ka soo sameeyay waa khaldanaan karaa waa saxsanaan karaa laakiin waa sida uu tahay waa essential way nacam baahidooda intaas ka kaafisay weeyaan waa wax aad iyo la yaab u leh iska daaya tan kale corona waxaan arkaa dad fara badan oo leh corona kuma dhaco qofka muslimka corona kuma dhaco ilmaha yar yar dadkaas waxaan ugu aqli celinayaa dagaalku markuu ka socday Muqdisho iyo waqooyi iyo meel walba ka socday xabad ka weyn way ku dhacaysay ka yarna way ku dhacaysay ilaahay baa ku soo corona waa xabad waa sun mid yar iyo mid weyn muday laakiin waxaad kaga fogaan kartaa adiga oo taladay dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku ku siiyeen
raaca naftaadana xadido oo isa soo ururiyo oo socodkii badnaa iska daayo isa soo ururiya markaad albaabka qabsanaysid iska masaxa leyrka markaad daminaysid iska masax at least is ururiya waayo waxa laga yaabaa adigu haddii aad caafimaad qabto inaad tahay asymptomatic wax la yidhaahdo waxaad tahay gudbiye xanuunkii waayo difaacaaga ayaa sarreeya marka adiga xanuunkii kuma dhaawacayo kumana jeefinayo laakiin waad abtooreynaysaa nin caafimaad qabatay laakiin dadkii kale aad gaarsiinaysa waxa laga yaabaa dadka dhibis inuu ka mid yahay ilmo guriga kuu joogo kuwa xanuunsan hooyada kuwa xanuunsan aabbaha adeerka aftiga dadkaas oo dhammaantood xanuuno la yidhaahdo conditions wada qaba ama dhiikar leh ama blood pressure leh ama ma garanaysaa macaan leh ama waxyaalo kale dadkaas baad marka xabadii ku ridaysa markaas waa nin weyn buu hayo isaga ku dhacday karoonii awoogi adaana u keenay laakiin ma ogid ismanaad baadhin inaad tahay ninkii sababta u ahaa marka waxaan odhan lahaa dadku talada dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka ha raaceen ha kana fogaadeen waddankana marti edebla ha noqdeen waa tala aad iyo aad u fiican aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ubax coronaviruska maadaama aad dhakhtar tahay bal siduu soomaalida u wajahay markaad talooyinka siiso siday kaaga qaataan bal noo dulmar intaanan xirin anigu dhakhtar maahi corrections waxaan ahay waxa la yidhahdo health coach and I coach patients with chronic diseases mainly focuskayga waa diabetic aan coach gareeyaa how to manage their medication iyo how to eat healthy and also aniga waxaan kaloo xirtaa koofiyad kale oo ah an interpreter medical interpreter baan waxaan ahaa 22 sano isbitaalka hadda aan ka shaqeeyo as a part time waxaan ku shaqeeyaa oo jaamacadda kusoo dhameeyey anoo ah medical interpreter health coaching sameynaya my background hadda jaamacadda aan uga baxay waxa weeyaan in liberal art waxaan an emphasis ka dhigtay psychology waayo waxaan sameeyaa counseling iyo therapy iyo waxaan siitaan waa inaan insha Allah sameeyo marka dhakhtar maahi laakiin dhakhtaraa la shaqeeyaa marka la shaqeynta dhakhtarada aan la shaqeeyo patientkina u turjumo waxa ay tustay siyaabo badan inaan u arko oo aan arko dhinacyo badan inay arrintan naga soo gasho dhakhaatiirtu waxay ku taliyeen hadda numberkeena annaga state of Washington waa down oo maasha Allah sidii hore ma aha laakiin dadkeena Soomaalida ah waxa kaliya dhibaatadan haysa ay tahay waa aragtay hadda afka la wada xirtaa dibadda hadii la aadayo waa inaan isticmaalno hadda sidii uu abnuur lahaa meesha taabanaysid inaad ka hubsatid oo fiirisid oodan iska taaban meel gacanta iska saareen warqad inaad ku taabatid musqusho kale markaad xilaysid warqad inaad ku taabatid taxadarkii Soomaali haddaan nahay waa uu nagu yar yahay dadka xanuunada qabana xanuunkan way u soo dhiibtaan qofka weyn qofka qaba sokorta qofka qaba dhiigkarka qofka qaba high cholesterol qofka qaba kansarka patient badan oo waxaa la shaqeeyaa oo cancer patient ah in aan ilaalino waa muhiim anigoo kale hadda ma ogi inaan ahay qofkii symptomatic ahaa oo carrierka ahaa inaan ahay ma ogi marka waxay ugu qasabtaa inaan anigu distancega ka ilaaliyo patientkaygii aan anigu caawinayay oon la joogo waayo ma ogi inaan qofkan u noqon karo aniga sabab marka qofkii asaga aan is ilaalino oon ogaano immunekayga anigu inuu fiican yahay laakiin aan dadkii u gudbin karaa laga yaabaa waa inaan anigu is ururiyo mar walba mask aan xirto gacmahayga dhaqidooda aan ka fikiro ilmahan haystaa hadda markaan isbitaalka ka imaado aniga waxaan sameeyaa iridda hoos oo garaashka ayaa wax alla waxaan dharsito kaga soo tagaa waayo xataa wuxuu raaci karaa baa lagu leeyahay kabahaaga markaaga qofkii madaxa hadda timaha adinka ragga oo kale timihiibu uu raaci karaa baa lagu leeyahay marka siyaabo badan inaan u taxadaro ninka ay malaa'iga u xirta ka war adiga xataa meesha kor buu ku istaagayaa iska ilaali marka waa in oo aan taxadarno taxadar iyo immunekeena inaan ka shaqeyno marka Soomaalida mentalitygan qaldan ay hadda wataan ay leeyihiin hadda xabad soodo iyo waxyaabihii la isku dardarayo daawaadka ay cabtid ma kugu dhacaayo may taas waa qalad wuu ku caawinayaa markuu kugu dhaco ama wuu ku caawinayaa immunekaaga dhisi kartaa laakiin tana dawo u ah research la sameeyay oo la sheegay inay xabad soodada dawo u tahay ma jiro research la sameeyay oo toonta inay dawo u tahay sheegayna ma jiro weli baaritaanka iyo researchiga waa lagu jiraa dawo looma helin wax u roon weli lama ogaani kaliya waxaa la ogaaday hadduu kugu dhaco inaadan jiifi karin ha jiifan hadduu kugu dhaco istaag soco exercise qofka haddii neefta ku ceshoonto oo uu jiifto sambabada isla markaas isxirayaan waa taas dilaabay u noqonaysaa kaliya waxaad ogaataa cabitaan biyo badan inuu cabo inuu istaago qofka inuu exercise sameeyo xataa asagoo xanuunsan hadduu xataa sariirta ka dhici karin qofka inuu istaago muhiim weeyaan inuu wax badan cuno uusan isqatin marka xanuunka waa laga badbaadadiisana hadda aad u badan tahay maasha Allah haddaadan lahayn xanuun kale oo ku hoos jiray oo kugu darsamay marka waad ka badbaadaysaa haddii Ilaahay kuu qoray laakiin adigu taxadar
أفريتمن برينا إسحرية بيشن كيجا قار كميدا أون أنا أوجا هاي بحلال ميت كسر كمان بحني لما بريما السهوري ويرنن أفريتين دايس كي آوي صوتانكو إيري أفريتمن معلومات السهوري ما أوبح وافعناه لما معلومات بقى السهوري وهذا أم أوكي ناس كحتى محرم سو أنا قلنا مركز هذا بوفس عليك حتى يقول عين joogo maaskaygan waa xirnahay waxaan iraahdaa 6 mitir iyo jirsada hayso dhawaanina qofkiina ma aaminayo marka ma aamino mana raacno dhakhtarku wuxuu noo sheego taasna waxaan ir qof Soomaaliya markaan la kulmo 14 bilyan shaki ku jira haari shaki ha marka waa khatar ilaahana badbaadiyo aad iyo aad u mahadsantiin sidaad ummadiina ula hadlaysaan u baraarujinaysaan wax u sheegaysaan ummadda Soomaaliyeedna waxay u baahan tahay in wax loo sheego la waaniyo qof waliba wuxuu u heli karo uu ku saacido marka bay'ad ma galeynaa iyo ballan inaan ummadan wixii aan u sheegi karnaa u sheegno yes taas waa waxa u taaganahay kolayba anigii barqad buu aan isna qaaranay asaga waan ku jiray ummadda waa waru shaqeynayay ma garatay waqti baa laga lumay hadeerna waxba waru soo bartay oo waqti baa sii gelinaya hadii la yiraahdo si aan dadkayga iyo dalka iyo ugu shaqeeyo dhamaan ummadda aad iyo aad ayaad mahadsantihiin ubax warsame oo reer Washington Seattle Cabdinuur Barqad oo reer Minneapolis iyo Axmed Dawaqaca oo Salt Lake City jooga walaalahana daawanaya dhamaantii waxaan idinkaga tageynaa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk fadlan aan u duceyno ubax iyo Cabdinuur aad iyo aad baad u mahadsantihiin thank you so much thank you aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum calaykum assalaam